سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمانتين وين سودوينيا وحنيتكم سلام يا سلامتي سلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. habeen wacan ama baan idhaahdo fiid wacan dhammaantiin meelahaad ka kala timaadeenba especially inta ku nool geeska Africa oo ay habeen u tahay. intaa marka laga imaado waxaan idinka raali gelinayaa mashquul aad u badan iyo duutiga hosbitaalka oo igu batay maalmahan iyo maxaan ku idhaahdaa iyadoo jiraan xumad daran oo magaalada soo gashay oo dengue fever la idhaahdo oo bukaanadii nagu yar bateen oo anigana aan in badan idinka mashquulay toddobaad iyo dheeraadba ay ahayd inaan casharkan ama kan hore u qaadano toddobaad ka hor khamiistii hore haddaanan qaldanayn, laakiin mashquul imiday awgeed xagga dhakhtarka iga yimiday aan dib u dhigay oo caawa inoo suura gashay. taas waan idinka raali gelinayaa. haddii oo aan toos usoo guda galo barnaamijkeena ama oo magaciisa la idhaahdo islaamka iyo aadanaha, oo aan xalqadii hore kaga hadalnay jiritaanka ilaahay fidro iyo caqli ahaanba inaga oo ku sugnay waxyaabaha aan adeegsanayaan isla laftigeeda kasoo hadalnay sida ilaahay loogu yaqaano ama bini aadamku ay ugu dhashaan. nabiga caleyhi salatu wasalaam wuxuu yihi kullu mawlidin yuuladu cala alfidra ama maa min mawluudin ilaa wayuuladu cala alfidra. qof kastaba wuxuu ku dhashaa fidrada oo ku abuuran, taasoo ay kamid tahay garashada ilaahay waxyaabo badan haba dheeraatee, taasoon iyadana aan ku sugnay inaan soo qaadanay researches iyo abxaaf taageeraya oo diraasaad cilmi baadhiseed oo la sameeyey sida ka macadka Oxford lagu sameeyey kamid tahay bugaag badan oo aan soo qaadanay mostly ay yihiin dad inagu khilaafsan fikirka. sidoo kale waxyaabo badan oo aan soo qaadanay waxaa kamid a bugaagta sida ninka oo Will Durant la idhaahdo oo buug weyn oo encyclopedia ah oo Story of Civilization la idhaahdo ku leh pagekiisa 68. They all believe that religion is universal is substantially correct. rumayntii dadku ay weligeedba rumaysnaayeen ee soo jireenka ahayd ee ah in diintu ay tahay mid aad u faafsan waa mid yani xaqiiqo ah. waxaa kaloo soo qaadanayo xusid mudan Greek philosopherkii iyo historiankii Plutarch la oranayay oo yidhi haddii aad adduunyada kusoo wareegto waxaad arki kartaa aad la kulmi kartaa dhul bilaa ciidan ah, bilaa deyr ah, bilaa iskuulle ah, laakiin way adag tahay inaad la kulanto dhul bilaa ama ay ka maran tahay meel lagu caabudo. waxaan kaloo soo sugnay jiritaanka ilaahay iyo caqliga iyadoo waxyaabaha badaneen cadayna ay kamid ahayd ina uu yahay caqligu mid aan maadi ahayn oo ka madax banaan maadada, aanan ahaynna maskaxda ama brainka aan ahayn, oo mindka uu yahay mid ka duwan, iyadoo diraasaad Nobel Prize lagu soo qaatay aan cadayn ugu soo qaadanay. sidoo kalena aan cadaynay inaan dood iyo isqancin ayna meesha iman karin ilaa caqliga oo xor noqda mooyaane. haddii uu yahay maadi sida maskaxda oo u hoggaansan xeerasha physics-ka, reasoning ma samayn karnaa, reaction iyo falgal iyo falcelin uma samayn karnaa xorriyad iyo ikhtiyaar ka maran. xorriyadduna waxay daruuri ugu tahay caqliga maadaama uu yahay waxa aan isku haysanay afkaar aniga ah saxsan iyo aniga saxsan iyo kayga soo raac iyo kayga soo raac. waa muhiim inaa hor iyo horta ay jirto asaaska ah inaan qaadan karno go-aan iyo ikhtiyaar aan isku raaci karno oo aan fikirna ku qaadan karno fikirna ku diidi karno. marka taasina ma suuro gali karto ilaa ilxaadka ama fikirkan materialistic atheismka
oo ah mid faashil ah oo aan jirin mooyaane ma suuragali karto. So waxaan kasoo hadalnay atheist paradox ama meesha uu si kastaba ku baaba'ayo fikirkan ilxaadka ee parasite-ka oo ah in haddii uu yahay fikir u baahan in lasoo bandhigo amaba aad rabto inaan ku qanco oo ay tahay inaad soo bandhigto keliya aad soo bandhigi karto amaba uu jiri karo caalam fikir la kala qaadan karo xorriyadii ay ka banaanaan kartaa uu yahay un caalam aanay atheismku truth ahayn. Haddii uu caalamkaasi jirana fikirkani xaq ma noqon karo. So waa labo isdiidan weeyaan. Yacni haddii aad ilxaadka aad caddayn karto waxaad ku caddayn kartaa caalam uu isagu been uu yahay oo aanu isagu ahayn ka runta ah. Haddii uu isagu run yahayna waxba maba caddayn kartidba in la doodana maba banaanaba. So paradoxkaas oo atheismka ah waan kasoo hadalnay. Waxaan kasoo hadalnay yacni sababta ay muhiim u tahay inuu caqligu xor noqdo si natiijo gun ah oo sax ah looga gaadho. Sidoo kale waxaan kasoo hadalnay cilmi baarista sayniseed ee caddaynta u ahayd in maskaxda iyo mindku ay yihiin laba kala baxsan. Caqligu bilaa ilaah inaanu qiimo yeelan karin ayaan soo caddaynay oo aan la isku halayn karin haddaanu ilaahay jirin. Haddii xataa ay kugu deeqdo dhulgariir iyo iskadgadiska cimilada iyo evolutionkaasi iska dhacdada ama coincidencekaasi haddii uu yahay natiijo caqligaaga uu ku yimidena dee aanu ahayn mid wax kasoo qaad oo aan la isku halayn karin. Tusaalihii aan bixinayna waad ogeydeen. Sidoo kale waxaan soo ka sheekeynay caqliga iyo xeerashiisa iyo dafiraadda xeerasha caqligu yacni inay yihiin inay waali ay ku hagaan iyo inuu qofku uu shaki geliyo naftiisa oo uu ku dambeeyo ugu dambeyn skepticism. oo waxaan nidhi waxa weeyaan ma dafiri kartid maxaan ku rahdaa badiihiyaadkan ma dafiri kartid ilaa adigoo adeegsanaya mooyaane. So waa meel asal ah oo wax loo caddayn raadsado se iyaga lama caddeyn karo. Sidoo kale waxaan soo caddaynay inuuna saynisku ahayn waddada keliya ah ee garasho wax loogu ogaado. Anigoo soo koobaya waxii aan xagga hore kasoo hadalnay waxaan ka hadalnay inay tahay qofka caqliga uu yahay dadka yacni aan inagu ama mulxidiintu. Waxaan jecelahay inaan intaasi xagga dambe waan dhigan doonaa insha Allah markaan ka hadalno adduunka yacni caddayn noocma ah ayaa ay rabaan dadka fikirkan aaminsan marka in badan la indho-indheeyo. Taas markaan ka gudbo xalqadeenan maanta waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay idhaahdo abuuritaanka ama universe-ka iyo creationkiisii adduunka iyo abuuritaankiisii ayaan ka hadli doonaa insha Allahu tacaala xalqadan. Markaynu adduunka leenahay ama universe-kan aan ka hadlayno waxa muhiim ah inaan horta isla naqaano cilmigan lagu daraaseeyo koonkan ama adduunkan waxaa loo yaqaanaa cosmology. So cosmos waa universe-kii, logina waa study. So study of the cosmos. Ilaahay waxa uu abuuray bini aadamkaas aad aragtaan. Bini aadamkana Ilaahay waxa uu ku dhex abuuray bii'adaas iyo environmentskaas ama universe-kaas ayaa uu dhex dhigay. Waxa uu Ilaahay bini aadamka u sameeyey indho ka mid ah xis 5 ah oo bini aadamku uu leeyahay maqal iyo dhadhan iyo taabasho iyo wax kasta iskugu jira. Arag ayaa uu Ilaahay siiyey uu ku indho-indheeyo hareerihiisaas iyo khalqigaas isaga ay ku walaaloobeen xagga abuurka oo ay yihiin abuur wadaag uu ku indho-indheeyo. Marka uu ku indho-indheeyo Ilaahay sidoo kale waxa uu siiyey dhago iyo arag uu kula falgali karo waxyigiisa uu ku fahmi karo. Waxa ayna labadaasi waxyiga Ilaahay iyo xiskiisaasi waxa uu ku arkay ay ku kulmaan mindkiisa iyo caqligiisa kaas oo miisaama kaas oo uu Ilaahay u siiyey karti iyo xorriyad inaa uu ku kufriyo amaba uu ku iimaankiisa uu ku siyaadeeyo oo uu noqdo haddii uu doonana dee mu'min haddii uu doonana uu noqon karo yacni kaafir oo xorriyadaas uu Ilaahay siiyey. Sidoo kale waxa ku abuuran fidradii iyo su'aalihii uu adduunkan bini aadamku uu la soo galay. Sidaa darteed Ilaahay in badan waxa uu ku dhiirigeliyaa bini aadamka mid ka mid ah aayaadkiisa ugu waaweyn inay indho-indheeyaan oo ah abuurka adduunkan. So Ilaahay wuxuu leeyahay qul induruu maada fi samaawaati wal ard. Samaawaadka iyo ardadaa idinku xareeraysan bal eega baa uu Ilaahay leeyahay. Ilaahay aayad kale suuratu Araf wuxuu leeyahay awalam yanduruu fi malakuuti samaawaati wama khalaqa Allahu min shay. Yani abuurka Ilaahay ee samaawaadkaas ee kownka ka mid ah
miyaana ilaahay indhaynayn buu leeyahay. Ilaahay wuxuu leeyahay suurat almulk, hal taraa min fuduur, yacni isagoo abuurkiisa ilaahay ka hadlaya. Yacni in badan aayaadka ilaahay ee uu dadka in badan xasuus ahaan loogu celiyo. Waynagii xalqadii hore waa aan sheegnay oo ambiyada looma soo diri jirin inay dadka u adeegsadaan dood falsafadeed ay ku sugayaan jiritaanka ilaahay. Fidri ahaan ayay dadka u aaminsanayeen ilaahay jiritaankiisa. Soo xasuusin ayaa loo soo diri jiray iyo tawxiidka inay u sugaan ummadda. Laakiin nebina ilaahay lama soo dirin argument iyo xujo falsafadeed oo uu ku caddaynayo jiritaanka ilaahay, maadaama dadka ay ahaayeen mid ku abuuran inay ilaahay jiritaankiisa aaminaan. Saa darteed indhaynta aayaadkan waxay ka mid ahayd waxyaabaha ilaahay xasuusintiisa uu ilaahay in badan uu faray oo qofka mu'minka ah ilaahay yacni inuu u dhawaado iyo taqarrub iyo ta'amul uu sameeyo. Oo koonkuba waxa weeyaan waa kitaabkuna waxa weeyaan waa kitaabillahi almaqruu iyo kitaabillah makhluuq baa la kala dhahdaa. oo waa kitaabkii ilaahay ee abuurnaa koonkani, kanna waa kii aan akhrinaynay. Marka cilmiga lagu diraasay waxaa la dhahdaa cosmology. cilmigaasi haddaba aqoontu dabcan mid had iyo jeer qofka muslimka ah ay tahay inuu baadi goobo marka ay weliba faa'iido badan ay u leedahay ummadda, sida cilmigan oo kale. Balse cilmigan waxa in badan yacni hareereeyey khuraafaad iyo yacni waxyaabo dhaafsan ama ka baxsan xuduudka empirical science-ka ama sayniska tijaabada ah. Maadaama cosmology yahay waa part of science oo physics-ka soo hoos gala. So science shaygu markuu yahay waa inuu noqdo shay la diraasayn karo oo la baari karo. Haddii uu xuduudda la baari karo iyo xuduudda empirical science-ka uu ka baxo, wuxuu noqonayaa ideology iyo fikro kale oo falsafadeed. So cilmigan in badan waxa u soo dusay sida cilmiga kale ee biology-ga ee aan arki doono sessionada inoo soo socda insha Allah, in markaanu ka hadlayno fikirka aragtida isbedbedelka iyo horumarka bini'aadamka ama baan idhaahdo noolaha ee evolution theory la idhaahdo, sida ay biology-ga ay parasite ugu tahay waxyaabo badan oo khayaali ay usoo dhex galeen. Cilmigana waxyaabo badan oo khayaali ah ayaa meelo badan oo ka mid ah soo galay, ayna mudan tahay in laga digtoonaado marka laga hadlayo universe-ka iyo adduunka iyo bilowgiisa iyo samaysankiisa. Waxyaabahaasoo cilmigan ka dhigay pseudoscience ama science beelaale oo qaab sayniseed loo horumarinayo ugu dhex jira, laakiin runtii aan ahayn science oo ka baxsan xayndaabka tijaabada saynisaaneed. So waxay iska yihiin hypothesis iyo theories kuwaasoo ka baxsan xuduudka empirical science-ka amaba science-ka uu tijaabin karo. Haddii aanu science-ku tijaabin karin oo uu shaygu yahay mid aan loo bandhigi karin falsafadii Karl Popper ee science-ka u dejisan ee ah falsifiability principle, yacni in shaygii la beenin karo. So haddii science-ka maxaa loogu talagalay in la tijaabin karo shaygii, lana sugi karo, lana beenin karo. Haddii uu taas aanu soo hoosgelin oo uu yahay shay aan la tijaabin karinba, dee wuxuu noqonayaa wax aan ahayn science oo ka baxsan science-ka. So waxa in badan kusoo dhex milmay cosmology-ga iyo biology-gaba afkaaro falsafadeed oo yacni ka baxsanba xuduudka science-ka iyo tijaabadiisa, oo ideological ahaan uun loo taageero, laakiin aan ahayn kuwa haysta experiments iyo tijaabo kuwaasoo ka dhiga ama u qualify gareeya inay noqdaan waxa ay definition ahaan saxda ku tahay scientific theory waxa loo yaqaano, amaba inuu noqdo aragti cilmiyeed oo caddaymaheeda leh, lana beenin karo, lana sugi karo. So intaa waxyaabo ka baxsan ayaa ku dhex jira. Waxyaabahaasi markaasi ma ahin iyagu science, laakiin qaabka loo tarwiijiyo ee dadka loogu bandhigo waa qaab ay yihiin inay ay science yihiin oo kale. Marka dabcan waan soo dhaweynaynaa waxyaabaha uu cilmigan soo hooyey ee ah natiijooyinka caddaynteeda wata iyo observationskeeda iyo theorieska haysta facts iyo proofs iyo caddaymo haysta kuwaasoo ku salaysan observationska. Laakiin waxyaabaha kale ee ka baxsan iyagana dee sidaasi lamida waan beeninaynaa, waana fogeynaynaa. So waxaanu nahay ummad daliilka iyo caddaynta ku saldhigata, laakiin waxyaabaha khuraafaadka ah ee ka baxsan xuduudka sayniska ee fikir ahaan iyo falsafad ahaan loo wadwato, dee waxa weeyaan waa waxyaaba aan ka bixi doono. So waxaana waa waxyaaba aynanu inagu ahaan saynis ahaan aynanu u qaadanayn,
ayna tahay in qofka muslimkii uu ka digtoonaado critical thinkingna uu lahaado una iska ilaaliyo. So waxaa loo yaqaanaa pseudoscience ama soft science baa loo yaqaanaa kuwaasi. Waxyaabo waxaa jira mala awaala amaba han idhaahdo assumptions ay tahay uu ku salaysan yahay meelo badan oo kamid ah cilmigan la yidhaahdo cosmology-gu, kuwaas oo aan la caddayn karin lana sugi karin. Waxyaabahaasi waxaa kamid ah uniformitarianism, aragtida la idhaahdo oo ah in mechanics-ka iyo mechanisms-ka iyo qaabka uu u shaqeynayo universe-ku iyo lawskiisa iyo xeerashiisan iminka constant-ka sida ay u yihiin inay ahaayeen kuwo weligoodba sidaas usoo ahaa. So calculationska iyo waxyaabaha la dejiyo waxaa lagu dejiyayo lagu dhisayaa iyada oo la rumaysan yahay in qawaaniinta iyo xeerasha uu adduunkani ku kala socdo ay weligoodba sidaas soo ahaan jireen. Inay weligood sidaas soo ahaan jireen lama caddayn karo, lamana sugi karo, laakiin waa shay step ay ka bilaabeen oo ay yidhaahdeen han hor iyo horaanta taas aan aamino. So wax kasta oo lagu soo dul dhisay fikirkaasi maalinta ay noqoto in yacni uu noqdo shaygan ama adduunkani uu yahay mid aan weligoodba kusoo dhisnayn mechanics-kan, yani maadaama marxalado kala duwan uu soo maray universe-ku sida physics-ka laftigiisaba ku cad, ma odhan karno oo mana hubi karno in weligoodba uu ahaan jiray qaabkan amaba uu systemkan uu u shaqayn jiray. So the calculationska ugu badan iyo waxyaabaha ugu badan ee khuraafaadkan dhaliyin waxay ku salaysan yihiin hypothesis-kaasi oo kuwaas oo dabcan ay yihiin kuwo laga bilaabo muqadimo iyo rumayn u ah laguna dul dhisay calculationo kuwaas oo lay kasoo baxeen theories iyo afkaaro kala duwan kuwaasoo dabcan dhaliyay khiyaal iyo waxyaabo badan oo mala awaala iyo daydreaming fara badan, yani riyo maalmeed. Waxyaabaha kale assumptionka u ah cilmigan uu ku dhisan yahay waxaa kamid ah in calculationska iyo xisaabaadka la gaadhay ay yihiin kuwo reflect gareeya reality-ga ama waaqica iyo xaqiiqda dhabta ah ka turjumaya. Yani this is iyadna waxa weeyaan waa qalad runna ma ahin. So xisaabku waxa weeyaan waa language, waa science language xisaabtu. So wax runana waad ku gaari kartaa, natiijo beenana waad ku gaari kartaa. Adiga oo calculations adeegsanaya ayaad soo saari kartaa ood gaari kartaa universe-ku inuu yahay different constants iyo yani inuu qaab kale oo qaabkan ahayn uu u abuuran yahay adduunku ayaad xisaabaad ku dhisi kartaa ka duwan xisaabaadka hadda uu ku dhisan yahay. So xisaabtaadu calculation ahaan sax bay noqon kartaa, laakiin marka loo imaado ontological reality-ga ama waaqica iyo dhabta ah ma ahin qasab ina ay natiijada xisaabtaada iyo waxa ka dhalatay calculationskaagu inay yihiin kuwo ay tahay qasab inay ka rumeeyaan amaba ay ka run sheegaan xaqiiqada dhabta ah iyo qaabka uu u shaqeeyo adduunka. Waxyaabo badan oo uu ku salaysan yahay baa jirta. Qaar ka mid ah haddii aan soo qaato aesthetic value-ga ayaa ka mid ah oo ah in uu calculationkan iyo qaabka beauty-giisa uu u dejisan yahay qurxoonaantiisu ay tahay iyaduna mid kasoo dhaweyn mudan marka loo barbardhigo haddii uu isku yahay mid cakiran. So waxan oo dhan oo la isku geeyo waxaa la isku yidhahdaa hypothetic deductivism. So iyadu waxa weeyaan waa waxyaabo afkaaro oo mala awaal ku salaysan kuwaas oo aan ay yihiin mundalaq ama meel laga duulayo laguna dhisayo cilmigan dhan kadib natiijooyin lagu gaarayo iyada oo la adeegsanayo waxyaabahan oo wada assumptionskaas ah. Marka waxa kaloo laftigeedu iyaduna muhiima in uu article uu soo baxay space.com meesha la yidhaahdo ay yidhaahdeen philosophers want to know why physicists believe theories they can't prove yani. So article-kaasi waxyaabaha laga niqaashayay waxan baa kamid ah inay yihiin dadka oo cosmology-ga diraaseeya amaba in badan dabcan ma generalize garaynayo oo cilmigan waxyaabo badan oo laga qaatana uu leeyahay wax laga tagana uu leeyahay. Marka waxaan ka hadlayaa waxyaabaha laga tago waxyaabaha ay ku dhisan yihiin iyo sababta ay tahay in looga tago. So waxay eegeen in waxyaabahan oo ah waxyaabo aan la caddayn oo ay yihiin waxyaabo natiijo ah oo lagu dul dhisay oo la rumeeyey horta in la rumeeyey in adduunku sidan uu u shaqayn jiray xisaab kastoo la gaadhaana ay tahay mid ka turjumaysa reality-ga iyo waaqica jira. Kadib waxaasoo dhan oo la isku geeyey baa lagu dul dhisayaa oo ay hadhow kasoo baxayaan fikiro iyo theories kala duwan.
so waxay idhaahdeen marka articlekan maxaa ay kuwa physics yahanadu ay yihiin kuwa u rumaysan theories iyo fikro ama theory aynay proof garayn karin oo aynay sugi karin maxaa ay u rumaysan yihiin marka haddaba markay timaado asalka kownka waxyaabaha qaar dabcan waa waxyaaba aan ogaan karno inaga oo markhaatigeena ku dhisan observationska iyo waxyaabaha inoo muuqda iyo waxyaabaha aan hadda haynayn aragno laakiin had iyo jeer gaabsi ayaa jiri doona marka aynu ku hadlayno asalka adduunka iyo bilowgiisii oo waxyaabaha gaabsiga keeni kara waxaa kamid a maadaama aynaynu inagu weligeena aynaynu observe garayn adduun abuurmaya ma hayno oo sample aan garab dhigno dee yacni samaysanka adduunku wax hal mar ah ayaa uu ahaa oo samaysmay inaguna bartanka ayaanu ka dhexnahay dhacdadaas weyn ee hal mar dhaca ahaa ma aragno everyday adduun samaysmaya ma aragno so had iyo jeer wax kastoo aan tijaabino iyo wax kastoon ogaanaba marka aynu u saldhigano inaynu ka gungaadhno adduunka iyo bilowgiisa waxaa iman doona gaabsi maadaama aynanu ahayn cabir saxa iyo meel aan uga tusaale qaadano aynanu horena u hayn adduun horteen lagu abuurayo maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalard walaa khalqa anfusihim so hore umaynanu arag inagu adduun laynagu hor abuurayo so had iyo jeer gabaabsi bay nagu noqon doontaa inaynu adduunka iyo abuurkiisa aynu si kalsooni aanu ku qabno aynu uga warbixin karno ta kale ee jirta waxa weeyaan adduunka iyo abuurkiisa inaga aqoontii adduunka iminka adduunkan aan ka warhaynaba aqoontiisii inooma keena so intaasoo culum baynu u kala qaybinay wax badan baa inoo kala dhiman so ilaa hadda two different systems bay ku kala shaqeeyaan quantum worldka iyo macro worldkan yani adduunyadan weyn iyo mechanicskan adduunka ka shaqeeya waxyaabaha la adeegsado physicska iyo xeerasha la adeegsado way ka duwan yihiin xeerasha la adeegsado marka la joogo quantum level amaba waxyaabaha yaryar atomka iyo wixii ka yaryar marka la joogo xeerar gooniya bay leeyihiin ilaa hadda theory iyo fikir xidhiidhiya labadaasi oo isku xidhaa ma jiro labadaba laba xeer oo kala madax bannaan ayaa ay ku shaqeeyaan midna probability system midna waa kanoo general relativitygaas ayaa uu ku shaqeeya so labadiiba waxay yihiin laba kala madax bannaan wax fikir oo isku xidhana ma jirto aqoonteeni maadaama universekan dhan ay kooban tahay waxa inagu adag inaan had iyo jeer aynu data fula ka helnana ma fududa kamana haysano mar haddaynaynu ka haysano way adag tahay inaan isku dayno inaan mala awaalkeena iyo madaxeena ku create garayno inagoo xisaabaadkii waxaas adeegsanayna aan hore usoo sheegayba sample saxa oo ka turjumi karta universekii iyo abuurkiisiiba ta kale iyaduna waxa weeyaan lab kuma dhex samayn karno dhacdadan oo dib lab uguma dhex turjumi karno maadaama aqoonteenii ayna ahayn mid koobsatay universeka hadda jira sidoo kalena aynaynu ahayn dad familiar la ah oo hore ula soo qabsaday adduunyo iyo universe lagu hor abuurayo assumptionskaas aan idin soo sheegay ee asaaska looga dhigay cilmigan qaybo badan oo kamid a waa kuwo ay ka dhashaan khayaalaad iyo riyo maalmeed kuwaasoo badan oo dabcan xisaab ahaan sax ah oo calculations ahaan waa sax laakiinse maxaan idin idhi calculationska iyo waxyaabahaasi ma ahin kuwa had iyo jeer reflect gareeya ama ka run sheega ontological realityga iyo waaqica dhabta ah ee uu adduunka u abuuran yahay so waxyaabahaasi waxaa ka dhasha marka fikiro iyo theories fara badan oo lagu dul dhisay oo laakiin mala awaala so tusaale waxaa kamid a theorieskaasi string theory fikirka la idhahdo ama theoryga la idhaahdo taasoo uu dabcan Stephen Hawking uu buuggiisa la idhaahdo brief history of time uu ku sheegay inay tahay mid khuraafo la mid ah yacni oo waxa ay leedahay malaayiin wado oo dabcan calculation ahaan sax ah oo wada sifaynaysa adduunka iyo qaabkiisa laakiin dhammaantood intaasoo malaayiinoo wado sax ma noqon karaan waayo waxaad u baahan tahay keliya adduunku hal sibuu u samaysan yahay malaayiin si oo kala duwan uma samaysmo so waxyaabaha uu leeyahay waxaa kamid a buuggiisa Stephen Hawking The Grand Design page 74 page 174 boqol iyo afar iyo toddobaatan waxa uu leeyahay string theory suffered from another awkward issue so waa uu sii wadaa so theorygan waxa weeyaan waa mala awaal maskaxeed oo loo geeyay xisaabaad so waxa uu leeyahay there appear to be at least 5 different theories and millions of ways the extra dimensions could be curled up so xisaab ahaan waa sax laakiin ilaa 5
qaybood ayaa ay leedahay. Shantaa qayboodna waxay ku siinayaan ee kala duwani waxay ku siinayaan malaayiin wado oo aad adduunkan uga faallo bixin karto. Yacni malaayiin explanations kala duwan oo malaayiin ah ayaa ay ku siinayaan. Intuba calculation ahaan ay sax yihiin, laakiin intuba ayna run noqon karin. Maxaa ayna ku salaysan yihiin? Waxa ay ku salaysan yihiin principleski aan hore usoo sheegnay ee ay ka mid tahay uniformitarianism-kaasi. So theorieskaas ayaa dabcan ka mid ah. Marka waxa weeyaan sidoo kale waxa uu isagu ku darayaa oo uu fikirkan ama string theory isaga oo ka hadlaya uu leeyahay this theory ama aragtidan string theory-ga la yidhaahdo iyo aragtida odhanaysa amaba khuraafaadka dadkii aaminsanaa ee odhan jiray adduunka iyo dhulku waxay saaran yihiin diin dhabarkii. So wuu isbarbar dhigayaa buuggiisa Brief History of Time chapter 2 alif. So wuxuu leeyahay marka both theories labadaas aragti ta odhanaysa adduunku diin buu dhabarka u saaran yahay, diin malaha koonfurta diin unbaa loo yaqaanaa baan malaynayaa, diinka baalkan qolofta leh. So qaar baa aaminsanaa inay adduunku uu yahay mid diin dhabarka u saaran iyo string theory-gan buu isbarbar dhigayaa. So wuxuu leeyahay both theories labadaba wuxuu yidhi lack observational evidence, labaduba caddayn la arkay oo loo hayo male. So waxa uu leeyahay sidoo kale Stephen Hawking wuxuu kusii darayaa no one has ever seen a giant tortoise with the earth on its back, but then no one has ever seen superstring either. So cidna ma aysan arag superstring, yacni waxyaabo strings waxa la dhahdaa waxyaabahan jiidan yacni sida xadhkaha oo kale. So aragtidani waxa ay ku salaysan tahay oo ay ka sheekeynaysayo in badan lagu daraaseeyaa this string theory ama ay odhanaysaa in adduunka oo ah universe-kan inagu hadda joogno uu yahay. So waxa weeyaan waa theoretical framework weeyaan oo qaab uu adduunkan u shaqeynayo u dhisan yahay bay ka hadlaysaa. So waxay leedahay particleska iyo particleska physicskuba waxa weeyaan waa qaabkii strings oo kale, waa qaabkii waxyaabo xadhkaha oo kale. So this theory aragtidan iyo in la yidhaahdo adduunku diin buu dhabarka u saaran yahay labaduba male observational evidence iyo caddayn muuqata oo la arkay. So labaduba ma ahayn waxyaabo kala duwan, labaduba waa khuraafaad ayaa uu leeyahay Stephen Hawking buuggiisa chapter 10 Brief History of Time. Marka dantan uga dan leeyahay waxa weeyaan in khayaalkaas oo dhani uu ka dhismayo marka asaaskan cilmigan looga bandhigo waxyaabaha si aan ahayn iyaguba aan caddayn ku salaysnayn ah, sida uniformitarianism-ka aan idin soo sheegay. Sidoo kale waxaa la mid ah multiverse-ka oo ah aragti aan lahayn yacni iyadna hal caddayn ah male. So iyaduna heer la mid ah ayay taagan tahay khuraafo ahaan. Waana Alexander Fleming ninka la idhaahdo oo very experience ah oo 25 sano in ka badan cilmigan diraasaynaya khibrad u leh. Waxa uu leeyahay iyada iyo khuraafaadka Greek-gaba wax u dhexeeya ma jiro. Yacni khuraafaadkii ilaahyadii Greek-gu ay rumaysnaayeen waxaan ujeedaa dadka bini'aadamku ay Greek-gu ay ka rumaysnaayeen ilaahyadooda iyo khuraafaadka fara badan ay rumaysnaayeen Hercules, Zeus, waxyaabahaas oo dhan iyo methodskaas iyo methodologieskaas ay aaminsanaayeen Greek-gu iyo uma dhexeeyo farqi iyada iyo aragtidan multiverse oo odhanaysa adduunyooyin fara badan ama universe fara badan ayaa jira. Ta kale ee ay iyadu dheer tahay waxa weeyaan waana untestable oo lamaba xaqiijin karo, lamana tijaabin karo. Shayga haddaan empirical science-ka loo bandhigi karin oo falsifiability principle-kii aanu hor istaagi karin oo aan lana sugi karin lana beenin karin waa iimaan bannaan oo aan cidlo ah. Waxana weeyaan wuuna ka baxay xayndaabkii cilmiga. So ma ahin science ma ahin ee waa falsafad iyo rumayn yacni aan caddayn wadan. So kuwo kale oo badan oo la midana waa ay jiraan, waqtiga oo igu yar awgeed inaan iskaga lumiyana runtii ma jecli. Haddii aan halkaas u tago waxaan oo aan halkaa kaga tago waxa weeyaan waxaan dabcan iyada aan hore uga soo hadalnay oo xalqadaheenii hore aan ka hadalnay in garashada ilaahay ay fidro ay tahay oo bini'aadamku ay yahay mid yacni ay ku dhalato su'aalaha jiritaanka, kuwaasoo dabcan uu yahay ambiyadana loo soo diray uu ilaahay usoo diray inay ku xasuusiyaan amaba aayaadka ilaahay oo la eego koonku ka mid yahay
uu ku xasuusan karo jiritaanka ilaahay oo fidradiisa ugu toosi karto. marka sidaan hore usoo sheegay bini'aadamku waxa weeyaan adduunkan wuxuu kusoo galay dabcan mind iyo maskax taasoo aad moodaba inay diyaar u tahay oo sugayso message oo ah risaalo iyo waxyi inay sugayso oo ay maankiisa yacni ku kulmaan aragtida uu adduunka ku xeeran ku arkayo iyo maqalka waxyiga ilaahay. ilaa bilowgii abuuritaanka adduunku waxa uu ahaa mid caqabad ku ah ama su-aal hortaalay kuwa mulxidka sheegta oo dabcan aan nidhi quruntii dambe qarnigii 17aad iyo wixii ka dambeeyey ayaa ay bilaabmeen. So aayadaha ugu waaweyn ee ilaahay jiritaankiisa tilmaamo maadaama uu ka mid yahay abuuritaanka adduunku, atheismka iyo fikirkani si uu u saldhigto waxa uu isku dayay ina uu ka jawaabo dabcan fikirkan waa aniga idin soo sheegay waa parasite waxa uu ku saldhigtay ina uu diimaha aflagaadeeyo amaba uu diimaha uu objections iyo ictiraad uu ku sameeyo taasba oo ku saldhigtay. laakiin sidaan hore usoo sheegnay maadaama parasite yahay diin la-aan iyo jiritaanka ilaahay oo meesha ka maqan fikir saxmi kara ama sugmi kara ma ahin. waxa uu ku doodayaana waxa weeyaanba ilaahay ma jiro. fikirka uu doonayo inuu suuq geeyo waa inaanu ilaahay jirin. isaguna ma jiri karo ilaa ilaahayo jira mooyaane. So waxa weeyaan circular reasoning. So waa fikir parasite saan hore usoo sheegay. marka ilaa bilowgii had iyo jeer su-aashii ka hor iman lahayd waxay ahayd aayaadka ugu weyn adduunka aayaadka ugu weyn jiritaanka ilaahay oo ah adduunka. So haddii adduunka ilaahay baa abuuray bay ummad walba aaminsanayd. marka haddii fikirkan uu yahay fikir aad doonayso inaad suuq geyso waa inaad su-aalahan jiritaanka ee bini'aadamka ka dhex guuxayeen hore usoo sheegnay fidriga aad qaab alternative oo ka duwan aad usoo bandhigi kartaa. So taas ba ay ku dadaaleen. So markii ugu horreysay waxyaabaha uu ku saldhigtay diin cayga iyo aflagaada diimeedka, laakiin markii dambe waxa uu adapt gareeyey waxyaabo xilligaasi scientifically loo rumaysnaa amaba han idhaahdo la aaminsanaa oo ay ka mid tahay in universe iyo adduunku uu ahaa mid static ah. So xilligaa waxa predominant ahayd quruntaasi static universe theory in adduunyadu ay weligeed soo jireen ay ahayd oo ayna ahayn mid bilaabantay oo ay weligeedba soo jiri jirtay. waxa ayna dabcan iyagu odhan jireen adduunku weligii buu jiray abuuro uma baahna iyaga oo ka gabanaya xujada aayaadkan ilaahay ee ah yaa abuuray adduunkan iyo abuura in uu ilaahay yahay adduunka kii abuuray uuna yahay adduunku aayad weyn oo tilmaamaysa jiritaanka ilaahay. So iyagu waxay odhan jireen adduunku maba bilaabmin inuu bilaabmana waa ay kasoo horjeedeen. waxa aynay aad ugu deganaayeen static universe theory-ga oo ay aad islahaayeen waxa weeyaan waa tudhaba. adduunkan weyn abuurkiisa dabcan shaki ma galo. mulxidkuna waa maanka keliya ee xaqiiqada ugu cadi ay tahay isaga shaki ay ka gasho. in badanna waxay ka tahay inkiraad iyo madax adayg. laakiin adigoo garanaya kaawiyada gurigaaga taalla in la sameeyey xataa habad arki weydo ciddii samaysay had garan weydide inaad iska kaa galaan adduunyada in la abuuray iyo inaan la abuurin. shay la sameeyey iyo shay aan la samayn iskumaba ekaan karaanba. So garaadka aad kaa ku kala saari kari weydo wax kalood ku kala saartaa ma jiro. marka adduunka la imaado shaki ma gali karo in adduunku uu abuuran yahay iyo in kale. ka ugu garaad liita adduunkuna waa ka ay labadaasi iska galaan. wax ay uu maankaasi kala furfuri karaan ma jiraba mar haddii uu labadaasi kala saari kari waayo in adduunkan kugu xeeran intaa leeg in la abuurayo in kale aad kala garan weydo. marka adduunyadan loo imaado waxa iyada jiri karta uun saddex waddo mid unbaa jiri karta mid afaraad ma jirto. waa inuu ama weligiis uu jiray oo ay tahay static universe theory-gaasi ay tahay mid sax ah oo ay iyaguna weligoodba rumaysnaayeen ina uu isagu yahay mid naftiisa abuuray oo self creation adduunku isku sameeyey ama ina uu yahay yacni saddexda doodooda iman kara waxa weeyaan ta saddexaad in uu yahay mid la abuuray oo la bilaabay oo bilow leh. marka mid afraad ma lehen. marka haddii aan nidhaahno dabcan isaga ayaa is abuuray waa mid ku lid ah caqliga. So haddii aad tidhaahdo isagaa is abuuray waxay ka hor imanaysaa xeerasha caqliga law of non contradiction. So shaygu ma jiri karo mana maqnaan karo at the same time. yani isku xilli qof jira oo aan jirin ma noqon kartid ama waad jirtaa ama waad maqan tahay. laakiin
hal second ama hal waqti inaad tahay qof jira iyo qof aan jirin waxa weeyaan waa wax caqliga aan geli karin oo caqliga kasoo horjeeda. So adduunka in la idhaahdo isaga ayaa is abuuray waa caqligay ka hor imanaysaa. Si uu isku abuuro oo uu ficilka abuur uu u samayn karo waa inuu jiraa. Si uu u abuurmo waa inaa yacni uu ka baxsanaadaa jiritaanka. So si uu u abuurmo waa inuu ka maqnaadaa jiritaanka oo aanu jirin oo la idhaahdaa iminkuu soo abuurmay oo uu sidaa darteed ku samaysmaa. Haddii uu isagu yahay ka isa samaynayana dee si uu ficilka abuurka ah u samayn karo waa inuu hore usii jiray. So mana jiri kartid oo ma maqnaan kartid at the same time. So iyadu caqli ahaanba sax ma noqon karto. Marka optionkaasi waan iska tuuraynaa. Optionka soo haray ee labaad waxa weeyaan in la idhaahdo adduunku weligiis waa jiray. Taasina waa unscientific oo science ahaan sax ayayna ku noqonayn. Ta saddexaad oo ah in la dhaho adduunka waa la abuuray. Iyadu waxa weeyaan waa both rational waana oo waa maangal oo waxay ku salaysan tahay causality-gii iyo waa causality based yacni sababyadii bay ku salaysan tahay oo ka mid ah xeerasha caqliga. Waana sidoo kale scientific oo adduunku inuu bilow yahay caddayn sayniseed baan u haynaa. Han isla ogaano talabaad waxaan iyadana eliminate garaynayn iminka idin sheegeen idin idhi waa unscientific oo ah in la dhaho adduunku weligiis ayaa uu jiray. In la dhaho adduunku weligiis ayaa uu jiray oo la idhaahdo static universe theory waxa ay soo baaba'day markii la arkay 1929 Edwin Hubble uu arkay in adduunku uu sameynayo expansion taasoo laga soo drive gareeyay isagoo telescope-kiisa dabcan adeegsanaya uu arkay in xidigaha qaar ay sii fogaanayaan oo ay kala fogaanayaan taasoo caddayn u noqotay in adduunku uu sameynayo expansion iyo inuu sii ballaaranayo. Uu sii ballaaranayo universe-ku haddii aad dib u soo celiso waxay ku tusaysaa in intaa imika muuqata ballarkaas uu gaarsiisan yahay uu kasoo koobnaa intaasoo sano ka hor. Haddana intaasoo say 2 million 3 million sano ka hor intan uu imika isku jira kala fogaanta ah uu kasoo gaabnaa maadaama tawasuc uu ku dhacayo oo uu expansion sameynayo. Ugu dambeyn waxaad gaaraysaa point uu isku soo urursan yahay oo aanu jirin. Halkaas bay kasoo dhalatay aragtida ah Big Bang theory-ga la idhaahdo oo ah in adduunku uu ka samaysmay hal point oo isku soo urur ah taas oo qarax uu ka dhashay halkaana uu adduunku uu ka samaysmay oo abuurku uu ka dhashay oo saas ku samaysmay. This theory waxa weeyaan iyadu mid haysata observational evidence oo caddayn muuqata leh ilaa imika inta physics-ka la ogyahay. So waxyaabaha caddaynta u ah waxa ka mid ah universe-kan expanding-ka ah ee sameynaya taasoo ah mid la arki karo telescope-na lagu diraaseeyey shifting-na ku samaysay oo physics-kii ka kaxaysay static universe theory-ga ay aaminsanaayeen in adduunku weligoodba uu soo jireen ahaa una dirtay oo geysay xayndaabka ah in la rumeeyo adduunku inuu yahay mid bilow leh kana barbilowna leh kana soo bilaabmay Big Bang expanding-na sameynaya. Sidoo kale waxa caddayn u ah oo haddii uu adduunku static uu ahaan lahaa waxa caddayn u ah second law of thermodynamics kaasoo tilmaamaya yani waa xeerasha energy-ga ayuu ka mid yahay. So first law of thermodynamics waxa weeyaan energy can neither be created nor destroyed inaan yani energy-ga lana samayn karin lana burburin karin. Halka uu second law of thermodynamics uu yahay xeerka yani entropy-ga kaasoo ah haddii ay adduunyadu weligeed soo jirtay oo ay weligeed soo jirtay waxa aynu gaari lahayn heer ay energy-gan universe-ku ay noqoto mid dhamaata oo uu adduunkuna uu ku gabagaboobo thermal death yacni uu barafoobo oo adduunka dhan uu qaboobo oo ayna jirin fluctuations energy fluctuations yacni inay tamartii ay kala duwanaato dhinacna ay ku yaraato dhinacna ay ku badato oo ay isugu kala gudbi karto iyadoo raadinaysa equilibrium. Yacni waa tusaale haddii aan idin siiyo haddii aad soo dhigto koob kulul haddii aad halkaas dhigto oo maqsinka uu qabow yahay muxuu sameynayaa koobkaasi ugu dambeyn waxa ku dhici doonta heatkan ku jirtay inta ay ka baxdo in ay banaanka ay u wada baxdo iyadoo dabcan isku dayaysa in environment-gan ku xaraareysan ay la mid noqoto. So ugu dambeyn waxa uu qaadanayaa koobkan temperature-kiisa wuxuu la mid noqonayaa room temperature-ka aad ku jirto qolkaasi aad ku jirto temperature-kiisa iyo heerkulkan iyo heerkulka koobkaasiba ugu dambeyn isku mid noqonaya. So haddii uu qolku uu qaboobaa maxaa ku dhici doona oo uu koobkani kululaa
kulaylka badankiisu waa uu ka bixi waxa uuna tegi qolkan banaankiisa ayaa uu aadi doonaa so ugu dambeyn koobkaasi waa qaboobi so sidaas ayaa ku dhici lahayd energygan haddii uu adduunku uu yahay mid weligeed soo jiray marka iyaduna waxa weeyaan ma aragno so thermal death ayaa adduunka ku dhici lahaa so this second law of thermodynamics ama xeerkan physics-ka xeerashiisa ka mid a waxa uu ka saarayaa laba meelood oo lababa mid ayaa uu tirtiraya oo ah in adduunku uu weligii soo jiray iyo in uu adduunku uu yahay mid ka dhalanaya kolba big bangs iyo qaraxyo iyo big crunches yacni inuu adduunku yahay mid isku soo noqonaya dib haddana u qarxaya ama qarxayo dib iskugu soo noqnoqonaya oo cycle weligeed ma dhamaato ah ina uu adduunku ku jiro ayaa uu caddaynaya inaynay taasi run ahayn ayaa uu xeerkan second law thermodynamics meesha ka saaraya iyo in adduunku uu weligeed soo jiray labadaaba waa beeninaya xeerkani waxa uuna sugayaa in adduunkani uu yahay mid bilow leh oo big bang kasoo bilaabmay expansion sameynaya ayaa uu caddayn u yahay ta kale iyaduna waxa weeyaan microwave background radiation oo waxa weeyaan waxa sidoo kale lagu backup gareeyaa oo theorygan caddayn u ah observationka ah in la dareemi karo amaba maxaan ku idhahdaa la detect garayn karo background radiationkii ka dhashay big bangka wallow ragga uu ka mid yahay Ben Rose ay idhaahdaan wuxuu ahaa thousands of years kadib qarxii weeyaan radiationkan imika la observe garayn kara so anyway si ay noqotaba waxa weeyaan waxa uu meesha ka saarayaa in adduunku uu ahaa mid weligii jiray iyo inuu adduunku ahaa mid weligii big bang iyo big crunches isku soo qarqarxayay dibna isku ururayay oo cyclekaas uu ku jiray haddaba marka ay timiday fikirkan ah in adduunku uu yahay barbilow uu leeyahay waxa ay meesha ka saartay oo ay miisaskii ku rogtay aragtidii odhanaysay adduunku weligeed bay jirtay oo ay ahaayeen mid ay difaacayaan mulxidiintu waxa ayna in badan ay dib u gurasho bilaabeen so waxa Stephen Weinberg oo ah mulxid ah waxa uu odhan jiray oo uu leeyahay in fikirkan ah in adduunku uu bilow leeyahay aad ayaa iga naxiso ima aysan raali gelin ba uu leeyahay oo waxa ay taageeraysaa fikrad weligeedba ay diimuhu soo taageeri jireen oo ay had iyo jeerba ay odhan jireen oo ah in adduunku abuure uu leeyahay iyo bilow so Stephen Hawking laftigiisu waxa uu leeyahay buuggiisa la yidhaahdo Brief History of Time in Big Bang ay ahayd marked the beginning of the universe inay ahayd mid asal u ah amaba u saldhigtay bilowga adduunku ina uu bilaabmo ay ahayd Big Bang so sidoo kale intaas uun ma ahin marka aad aragto adduunkiyo bilaabay oo ay ku sugnaato aathaarka iyo raadka in uu yahay adduunkani mid abuuran oo barbilow leh waxa in badan iyaduna xaqiiqo noqotay oo meeshiiba sii adkaysay jiritaanka abuuritaan in uu adduunku ku dhacay waxa sii adkaysay in qaabka uu qaraxani u dhacay uu ahaa mid calculator dhammaanteen dabcan qarax waynu aragnaa meelo badan waa ka dhacaa dhib waa geystaa qarax waxa ka dhashaa waxa weeyaan waa chaos iyo isdhextaal kama dhasho nidaam iyo xeerar kama dhasho law of gravity kama dhasho xeerar iyo nidaam kama dhashaan qarax so waxa uu ku leeyahay Paul Davies ninka la idhaahdo oo ah physicist-yahan buuggiisa la idhaahdo Superforce The Search for Grand Unified Theory of Nature pageka 184 waxa uu leeyahay the Big Bang is well calculated waxa uu ahaa mid aad u xisaabsan so that begs the question yani waxay kugu kalifaysaa markaaba inaad istiraahdo ya calculate gareeyay ma isaga ma iscalculate gareeyay self creation ma samayn karo waynaga nidhi waxa weeyaan waa irrational oo waxay ka hor imanaysaa law of non contradiction yani xeerka ismadiidada oo in la idhaahdo isaga is abuuray waa shay laba shay oo isdiidaya oo labaduba ay yani si uu shaygu isku abuuro waa inuu jiraa si uu u abuurmana waa inaanu jirin mana jiri kartid oo ma joogi kartid at the same time so isaga ma iscalculate gareeyay the obvious answer waxa weeyaan may oo isaga isma uusan calculate garayn intaas uun ma ahin waxa uu leeyahay sidoo kale Stephen Hawking buuggiisa la dhahdo Brief History of Time pageka 63 waxa uu leeyahay if the rate of expansion markii uu qarxay universe-ku balladhkii uu sameynayay if the rate of expansion 1 second after the Big Bang had been smaller
by even 1 part in 100,000 million, the universe would have recollapsed before it ever reached its present size. haddii uu xadka iyo kala baxa uu sameynayay, haddii uu leeyahay yani hal second kadib qaraxaasi, haddii uu in yar oo 1,000,000,000,000 ah u dhiganta, yani jabkeedna haddii uu ahaan lahaa mid intaas ka gaaban, waxaa ku dhici lahaa in adduunku uu dib iskugu burburo, dib iskugu laabto sizekan iyo intan uu maanta leegyahayna ma soo gaadheen. yacni halkan maxaad ka eeganaysaa in bilowgiisa oo uu lahaado barbilowle un ma ahin, oo isagii ahaaba mid calculatora oo diraasaysan oo xisaabaysan oo qaab gooniya iyo system hagan ku bilaabmay un ma ahin, oo calculated ah ma ahin. dadkana tusaalaha usoo qaadanayaana ma ahin dad muslimiina, mana ahin dad christian, waa dad physicist ah oo cilmiga physigiska u ah authority figures ama tusaalayaal iyo dad matala u ah. not only bilowgiisii un ma ahin, balse xataa sii wadida iyo 1 second kadib haddii uu intaas uu ku bilaabmay ee uu expansionka ku sameeyo kala durkay, intaasi haddii uu in yar oo ka yar weliba kumanaan milyan jabkeedna ka yar haddii uu dib ayaa uu iskugu burburi lahaa. so wax aad u xisaabsanaa ayuu ahaa bilowgiisa iyo inaa uu sii ballaadhaaba. waxa intaas dheer in uu adduunkani uu ku salaysan yahay fundamental forces, kuwaas oo iyagu saamaxa inay noloshu sii joogto oo ay sii jirto. so haddii forceskani dabcan informationkana waxaan kasoo qaadanayaa Max Tegmark oo buuggiisa la dhahdo Parallel Universe, buuggaas oo Insights and Ultimate Reality from Quantum to Cosmos. so buuggaas magaciisa la dhahdo Parallel Universe oo Max uu qoray, waxa uu leeyahay if electromagnetic force were weaker or stronger, only 4% of what it is there, yani haddii ay 4% uun haddii ay ka xoog badnaan lahaayeen inta ay yihiin electromagnetic forceskan, amaba ay ka yar yihiin oy weaker ay yihiin, maxaa ku dhici lahaa buu ku leeyahay cadceedda, the sun would explode upon formation. markii ay samaysantayba cadceeddu qarax ayaa ay bilaabi lahayd. so maxaa suurto gelinaya xayndaab xadidan oo ay 4% keliya haddii ay soo dhaafto amaba ay hoos uga dhacdo, yani waxay ku jirtaa range aad moodo range very sensitive ah ayaa ay ku jirtaa oo suuro gelinaya nolosha bini'aadamka iyaba adduunyadaba si guudba inay nolol ka suurto gasho. waxa uu sidoo kale Michael Danton ninka la dhahdo buuggiisa la Nature's Destiny page 12 ilaa 13 waxa uu leeyahay if those 4 fundamental forces did not have its constants as exactly as they are, sida ay hadda yihiin haddii ayna qaabkoogaas ayna ahayn oo ayna constantly sidaas un ay u ahayn, yani u joogtaynayn, then there would be no stars, no life. waxaa jira fundamental forceskan adduunka, gravityga iyo weak iyo strong nuclear forceskaasi iyo electromagneticgaas, kuwaasoo dhani haddii uu mid walba xaddigiisaas loogu talagalay ee heerka xasaasiga ah ku jira, so markay isticmaalayaan waxay dhahdaan fine tune, yani sida recordka oo kale markaad mawjada geynayso, haddaad bidix u yar dhaqaajisan mawjad kalaad gashay, haddaad midig u dhaqaajisana mawjad kaliya idaacad kalaad gashay. so waa inaad halkaa yar ku beegtaa si aad u hesho idaacaddii aad rabtay inaad dhegeysato. so this is fine tuned, waa mid perfectly oo si heer xasaasi ah loogu beegay irbadaasi recordka aad kaga hagayso idaacadda iyo fmta, sidaasoo kale loogu beegay meel xasaasi oo haddii dhinacan ay u dhaaftana uu noqdo mid aynay waxba suuro gelin, adduunna samaysmin, iskuna burburayo, nololna ayna suuro gelin. dhinacan kale haddii loo dhaafana sidaas si lamida ay dhacayso oo burbura. marka labada dhinaca u dhaxaysa oo ah range aad u yar oo xasaasi ah, si fududna looga gudbi karo, ayna ahaynba number waaweyn, gaabka yani aad ku qaldami karto, yani 4% waa very small marka loo barbar dhigo yani dhibta uu geysan karaya rangekan. so only 4% oo change ah oo aad ama xagga xooga ah ama weaker uu noqdo electromagnetic, waxay suuro gelinaysaa inay cadceeddu ay qaraxdo. so 4% wax aad saa u weyn ma ahay, so waa finely tuned. marka waxa uu leeyahay haddii afartaasi force fundamental forceskaasi haddii aynay intooda iyo xisaabkaas yar ee ay rangeka yara kooban ayna ku jirin, then there would be no stars, xidigana ma jiri doonaan, nololna ma suuro gali doonto. so nolol iyo adduunkuba waxa uu ku jiraa
xadhig yar meel yaroo naqan oo aad moodo sida eega tusaalahan idinku sheegay ee ah idaacadda fmta aad geynayso oo kale ee irbadeeda ay tahay inaad bartaasoo keliyood ku beegto ay kuu suuro gelinaysa inaad dhegaysato BBC. haddii aad dhinaca u dhaafiso in yarna aad idaacad kale gashay, dhinacan haddaad u dhaaftana aad idaacad kale gashay. So waa sidaas oo kale inaad bartaas lagu sugo oo keliya ayay ka suurta galaysaa nolol kuna sii jiri doonta. haddii aad dhinacan u dhaaftana nolol iyo universe midna ma jiro, haddaad dhinacan kale u dhaaftana waa sidaasi lamid a. marka sidoo kale waxa weeyaan waxa uu leeyahay Stephen Hawking page 64 Brief History of Time. The remarkable fact is that the value of these numbers seem to have been very finely tuned ama very finely adjusted to make possible for the development of life. waxa ay yihiin universe-kan iyo waxyaabahan idin soo sheegay ee uu ka mid yahay waxa remarkable fact xaqiiqo aad xusid u mudana buu kuleeyahay in numberadan iyo valueskani ay yihiin kuwa have been very finely adjusted, si fiican loo sugay oo barteeda lagu beegay ayaa ay u muuqdaan buu kuleeyahay, looguna beegay to make possible si ay u suuro geliyaan the development of life, si ay nolol u suurta geliyaan. oo haddii iyaga la waayo bartaas ama sidaa ay sii ahaan waayaan oo ay halkaas ay ka baxaan ay labada dhinacba u dhaafaan, waxaa dhacaysa inayna nolol ayna jiri doonin. waxaan sidoo kale kusii darayaa Paul Davies physicsyahanka la dhahdo God and the New Physics buuggiisa la dhahdo page 198 waxa uu leeyahay there is an agreement at large, waxa si weyn laisku raacsan yahay among the physicists and cosmologists that the universe is finely tuned for life, in adduunyadu ay tahay ama kownku uu yahay mid finely tuned, yacni heer xasaasi ah la dhigay. sidaan eega idin sheegayay fine tuning waxaa la dhahaa taas aan eega idin tusaaleynayay needalka iyo irbadda fmt oo kale raadioga aan idinku tusayay, yacni in loogu beegay meel saxa iyo sixid lagu beegay meel saxa oo xasaasi ah lala doontay, taasoo loogu talagalay for life ina ay nolol ay ka suurta gasho. so adduunyada dhan waxa ay ku tusaaleysan tahayba inuu adduunkii bilaabmayna waxay ahayd mid u baahan xisaabaad iyo well calculated inay ahaato oo mid walbaba xad gooniya loogu talagalay ina ay yeelato. in adduunkii uu sii jirana waxa ay ku jirtaa xad iyo xisaabaad gooniya oo loogu talagalay oo aan labada dhinacna loo dhaafi karin. haddii loo dhaafana ay ka dhalanayso in khasaaro iyo maxaan ku rahdaa nolol iyo adduun labadaba midbaba aan lahayn. so gravity-ga aan iminka adduunyada haysano waxa weeyaan xad gooniya ayaa ay ku jirtaa. haddii ay dhinaceedaas dhaafto ega dhulkeenan aan ku noolnahay haddii gravity-giisu ay in yar intaas ay tahay ay ka increase garowdo, maxaa dhici doona fadkan iyo universe-kan, waxaan ujeedaa fadkan kugu haraareysan ayaa kugu soo dhici doona. waxa uu soo jiidan doonaa dhagaxaanta iyo cometiska hawadaas iska marmaraya ayaa uu soo jiidan doonaa, kuwaasoo dhulka kusoo dhici doona. so gravity-giisu haddii ay korodho weeye, haddii ay aad ay usii yaraatana dee guryaheenan iyo inageenani dhulka ma aynanu dul joognayn, hawada ayaynu u baxaynaa, waynanu dul sabaynaynaa ilaa aynu banaanka aynu atmosphere-kaba uga baxno dhulka oo aynu noqono yacni spacekaas aynu tagno banaanadaas oo aynu cirkaas iyo dhulkaas waxaan ujeedaa earthkaba aynu ka baxno oo ayay yacni suuro gali karaya. sidoo kale oxygenteenan heer xasaasi bay ku jirtaa 21% bay ka tahay atmosphere-ka. haddii ay in yar ay dhaafto oo ay 23 ay gaadho xataa maxaa dhacaya, waxaa siyaadaya xaraa'iqda iyo burningka iyo inay kaymuhu gubtaan iyo gubashada ayaa kordhaysa. haddii inteeda ka yaraatana uma fiicna noloshii dhulka iyo dhirtii iyo oo dhirtaasaaba dee adduunyada dhanba ay ku tiirsan tahay oo cuntadeeda lasoo baxda, waxa kalena waa wax cuna iyo wax cuna wixii cunaya dhirta. so taas baa la waayi karaya. adduunkeenan iyo earthkeenan aynu ku noolnahay oo ah kowkabka saddexaad haddii uu ka labaad ama ka koowaad noqon lahaa cadceedda ayuu aad ugu dhowaan lahaa, waxaana suuro geli lahayd in ay radiationka cadceedda uu dhaawac uu ka dhaliyo balse uu dib gaadhsiiyo heer aanu dhulka ayna ka suuro gelin, nolole ayna ka suuro geli karin. heat waveska cadceedda ka imanayana si fudud buu dhulka usoo gaari lahaa. dhulku xataa haddii uu intiisan uu dhaafi lahaa uu ahaan lahaa say ka inagu xiga oo kale haddii uu ahaan lahaa ama planetska inaga dambeeya oo kale haddii uu ahaan lahaa, baraf badan ayaa dhulka ka dhalan lahaa kaasoo isaguna
cimiladii dhulka xayiraya, adkaynayana inay nolol ka suura gasho. So heerkaas aan ku jirno iyo meeshaas aan taagannahay waxay ka mas-uul tahay iyaduna inay nolosheenu sii jirto joogto ahaato. Waxaa inala jaara planet weyn oo la dhahdo Jupiter. Gravity-giisu aad u weyn tahay. Gravity-giisa isaga weyni waxa ay saamaxdaa oo ay ilaalo u tahay iyo barta uu ku yaalay waxay ilaalo u tahay suurta gelisaa inay sii jirto nolosha dhulkan adduunkan aynu ku noolnahay oo ah uu inaga ilaaliyo dhagaxaan badan oo iska sabaynaya spacekaasi ay dhulkeena iyagoo kusoo dhici lahaa uu gravity-giisa weyn awgeed ay isaga ku dhacaan. So waxaad arki haddii aad isaga sawiraan ka aragto meelo badan oo ay dhaawac gaadhsiiyeen amaba ay ku dhaceen dhagaxaan waaweyn oo dhulka laaleeg oo uu isagu soo jiitay oo haddii ay dhulka soo gaari lahaayeen burbur gaadhsiin lahaa. So meesha aynu ku naalno iyaduna waa meel xasaasi ah oo haddii aynu dhinaca u dhaafi lahayn ay nolosheedu ayna nolosheenu sideeda ayna u suurto gasheen. Marka earthka iyo positionka iyo intaas oon bal xataa waxaan arki doonaa examples marka aynu dhigan doono nolosha bini'aadamka iyo si guudbaba nolosha markaynu ka hadli doono iyo aragtida evolutionka programyada inoo soo socda in ma ahin uun keliya in adduunyadan aynu ku noolnahay iyo environment-gan inagu xaraareysan uu yahay mid u adjust garaysan oo u tababaran amaba uu yahay mid suurto gelinaya nolol keliya oo heer xasaasiya u suurto gelinaya balse xataa nolosheena iyo qaabka aynu u noolnahay ay iyadu laftigeedu ay tahay mid diyaarsan oo iyaduna sidaas si aan ka dhicin u diyaarsan. Waxaas oo dhan marka aad aragto Stephen Hawking aan kusoo noqdo isaga waxa uu leeyahay waxyaabahan oo dhan marka uu isagu uu arko inkastuu mulxid ahaa waxa uu ku qorayaa buuggiisa Brief History of Time page 64. It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way except as the act of God who intended to create beings like us. Wuxuu ku leeyahay way adag tahay inaad sharaxdo oo aad sharaxaad ka bixin kartood odhan kartood uga jawaabi karto why the universe should have begun in just this way. Adduunyadan sidan calculated-ka ah ku bilaabantay ee qaabkan cajiibka ah kusii jirta ee waxeediba uu yahay wax fine tune oo heer xasaasiya taagan way adag tahay inaad fasirtoba uu ku leeyahay unless adigoo u fasiri kara mooyaane uu ku leeyahay except keliya waxaad ku fasiri kartaa as the act of God who intended to create beings like us. Inaa loogu talagalay ilaah kaasoo ugu talagalay oo intended to create beings like us abuurane ama khalqi sideenoo kale ah inaa uu soo saaro ilaah rabay oo ugu talagalay mooyaane si kalood ku fasiri kartaa ma jirto ba uu leeyahay. Isagu markii buuggiisii u dambeysay 2015 uu qoray muxuu ku fasiray wuxuu yidhi adduunka dhan gravity ayaa abuurtay. Gravity-guna waxayba ahayd the later result oo space time iyo dhammaan matter iyo energy space time iyo matter iyo energy intuba waxa ay kasoo bilaabmeen big bang ayaa ay kasoo wada bilaabmeen oo bilow bay lahaayeen. So without space gravity ma haysan kartid. So marka isagu waxa uu sameeyey imaginary line ayaa uu sameeyey sidaan arki doono iminka mar dhow laakiin pointigan ka dan leeyahay waxa weeyaan in uu isagu laftigiisu uu yidhi ayna ka maarsami karin amaba the only explanation fasiri kara uu yahay ilaah ugu talagalay uu abuuro dad sideena oo kale ah amaba abuur sideena oo kale ah unbaa ku fasiri karnaa buu ku leeyahay in adduunyadu ay qaabkan ay u dhisnaato. Factskaas aynu soo aragnay waxaynu kasoo diraaf garayn karnaa the following descriptions of God ilaahay iyo tafaasiishiisa soo socda uu yahay intelligent oo adduunkan waynagan aragnay qaabka uu u habaysan yahay oo from bilowgiisii wuxuu ahaa well calculated si fiican u dejisan waa uuna habka uu usoo ballaaranayay ilaa hadda uu u ballaaranayo amaba uu u socdiyo isbeddelka uu samaynayaa waa mid isaguna xisaabsan oo ku socda heer xasaasi ah oo aan haddii uu in yar dhinac iska bedelo ay dhici karto in nolosha iyo adduunka laftigeedaba la waayo. So waxaasoo dhan waxay u baahan tahay intelligence iyo in lagu maintain gareeyo xirfad sida innagaba ay tahay in aynu ku fahanaa ay u baahan tahay maskax iyo dhakaa iyo intelligence. Qof waalan iyo qof xayawaan ma fahmi karo. Bini'aadam intelligent ah ayaa loo baahday si aynu u fahmi karno. We have to be intelligent. Mar haddii inaguba ay tahay inaynu fahno. This intelligence haddii ay u baahan tahay in la fahmo intelligent
in la sameeyaana intelligence bay u baahan tahay. So waxaynu halkaa kasoo diraaf garayn karnaa uu yahay ilaahay mid maskax iyo aqoon iyo cilmi u leh uu ku suurtageliyo kuna sameeyo adduunkaasi. Waayo abuurka adduunkan ayaa u baahan si uu usii jiro, usii joogo, caqli iyo mind iyo maskax iyo tadbiir iyo cilmi iyo aqoon intaaba waa ku dhisan yahay. Inuu kusii jirana intaas buu u baahan yahay. Waa abuure oo barbilow baa uu lahaa universe-ka iyo adduunka waa inaga soo sheegnay. Waa uuna bilaabay. So waa creator oo khalqi baa uu sameeyey, takhliiq. Waxa uu leeyahay doonis oo waxaa jirtay mar aanu jirin waxa la dhahdo universe, dabadeedna waa uu bilaabmay oo from big bang baa uu kasoo bilaabmay. So choice iyo ikhtiyaar iyo go-aan ayaa jiray, yacni ay ahayd in adduunkan la bilaabo. So waxa uu leeyahay mashii'a iyo iraado ayaa uu leeyahay. Ma ahin oo waa beyond space and time, waana immaterial in nature, oo ma ahin maado, dhagaxna ma ahin, sanabna ma ahin, lamana taaban karo oo ma ahin waxyaabahaas materialke aynu dareemi karnayn, taaban karnay, shanteena dareeme aynu ku arki karno. Mana ahin mid uu xadeeyo waqti oo uu cimri ku socdo bilow iyo dhammaad leh, ma ahin. Mana ahin mid spacekan iyo universekan iyo adduunkan uu soo koobsaday, ma ahin. Balse waa mid isagu intaba u saldhigay ilaahay. So waxaynu halkaasi ka ogaan karnaa in dhammaan pagan religionska, kuwaas oo materialize gareeya amaba ilaahay ka dhigaya material ama dhagax ama sanab ama xayawaan, wax kaste oo maadi ah ka dhigaya ilaahay, ay yihiin kuwaasi diimahaasi kuwo iyagu u qaldan by default, oo ay tahay yacni calaa duul inay yacni markaaba ay qalad yihiin, maadaama aanu ilaahay intaa midna noqon karin, aanu dhagaxna noqon karin, aanu noqon karin wax material ah oo la taaban karo, aanu noqon karin wax cumri iyo waqti uu ku socdo, bal isagu waqtiga soo bilaabay oo uu saldhigay, maadaama waxaan oo dhan space iyo time iyo intaas iyo matter iyo energy ay ahaayeen kuwo bilow lahaa, isagu intaa midna ma ahin. Waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa ka hadalka adduunka iyo qaabka uu u samaysan yahay, inagoo le yacni markaynu aragno qaabka uu u dhisan yahay iyo u samaysan yahay ilaa haddana uu kusii jiro, iyo maintenancegaasi, sii jiritaankiisaasi, joogteyntiisaasi, oo dhammaantood wada ah fine tune sidaynu hore uga soo hadalnay. يعني markaad u fiirsato ay ku cajab gelinayso, ayna kaa siinayso rabbanaa maa khalaqta haadaa baadilan subxaanaka faqinaa cadaaba annaar. oo wax ilaahay uu cabad iyo kama muuqdo adduunkan cabad in loo abuuray. Intaas ayaan jecelahay inaan kaga baxo adduunka iyo universe-ka iyo qaabka uu u samaysan yahay iyo samayskiisa iyo jiritaanka ilaahay. Waxyaabo yar oo objections ah ayaa jira oo aad maqli kartood meelaha ku arki karto. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in la idhaahdo mar haddii aad ku sugtay ilaahay jiritaankiisa xeerka sababeynta iyo caqliga, xeerkani marar uu jababaa jirta, sida quantum physics-ka ayaa uu ku jabaa, oo quantum level marka la joogo waxaa jira waxyaabo dhici kara bilaa sabab. Taa waxaan uga jawaabeynaa, horta sababiyada ma jabin karo, kama bixi karo quantum physics-ka oo xalqadii hore markaynu ka hadlaynay waxaanu nidhi xeerka sababiyada waa xeerka uu ku dhisan yahay sayniska dhan. Sayniska dhan waxyaabaha uu diraaseeyey uu baadho maxaa la dhahdaa waa cause and effect relationship, yacni natiijo iyo sababteedii sababtay waxa ka dhexeeya unbaa uu baadhaa. So yacni ma jabin karo, haddii kale cilmiba noqon maayo, lamana baran karayo shaygaasi. So aniga uun malihi, laakiin Erwin Schrödinger ninka la dhahdo oo Nobel Prize quantum physics-ka ku qaatay, book waxaa jirta uu qoray oo uu u bixiyey philosophy of cause and chance, kaasoo uu kaga hadlayo isbedelka, uu kaga hadlayo intaasuu ciwaanka u bixiyo cause iyo chance waxyaabaha u dhexeeya. So waxa uu leeyahay cilmigan la idhaahdo quantum physics-ku ma uusan jabin causality-ga ama sababeynta, mana jabin karo, oo haddii kale lama baran karo, yacni it will cease to be a science, inuu science noqdo ayaa uu joojin doonaa haddii uu jabiyo xeerka sababeynta. Laakiin maxaa uu jabiyey? Waxa uu jabiyey buu leeyahay determinism-ka, yacni determinism waa in uu shaygu uu xadidan yahay oo uu go-an yahay. That's why Albert Einstein oo ahaa yahuudi rumaysan caqiidada loo yaqaano waxdatul wujuud, oo ah in shayada jira iyo ka jirsiyey ee abuurayba ay yihiin kuwo isku mid ah, uu uga soo horjeeday in badan quantum physics-ka waxaa la idhaahdo. Oo quantum physics-ku waxa uu ku salaysan yahay waxa weeyaan
principle of waxaa la dhahdaa principle of uncertainty baa la dhahdaa. So waa probability based, waa wax ku salaysan waxyaabo aan toos si rasmi ah loo saadaalin karin oo aan si hubaal ah looga gungaari karin. That's why mabda'a dhan uu ku salaysan yahayba loo idhaahdaa principle of uncertainty, yani principle ama mabda'a ah inaan waxbaba la hubi karin ayaa lagu saleeyaa isaga marka la baranayo quantum mechanicska, halka uu Albert Einstein uu rumaysnaa in uu maadaama ay yihiin waxyaabaha jira iyo waxyaabahan iyo ka jirsiiyeyba ay yihiin laba isku mid ay tahay inay noqdaan kuwa xatmi ah oo natiijo iyo meel go-an hagi kara. So that's why deterministic ayaa uu haayo determinism baa la yidhaahdaa, in yacni shaygii uu meel toosa uu tago. So kelmaddii uu caanka ahayd uu odhan jiray waxaa ka mid ahaa God doesn't play dice, yacni ilaahay laaduu ma ciyaaro. So maxaa uu uga jeedaa? Yani waxa uu ku dhaliilayaa cilmigan quantum mechanicska la yidhaahdo oo probability based ah oo ay adag tahay in la saadaaliyo. Isaga markaa waxa uu samayn jiray maadaama uu aaminsanaa fikirkan determinismka, marar badan xataa waxa uu yidhi isagoo rajaynayay dabcan inay sidan ay wax kastaba ay deterministic noqdaan. Yani determinism haddii aan idiin sii fasiro waxa weeyaan, tusaale ahaan aniga maanta waan idinla hadlayaa, inaan idinla hadlo waxa ay ka dhalatay yani fikirkan falsafiyan marka la eegayo waa inaan idinla hadlaa tusaale ahaan waxa fasiraad u ah dhacdooyinkii ka horreeyey. So waa silsilad dhacdooyin ah oo isa soo tiirtiiriyey kuwaasoo soo hagay dhacdadan hadda ah ee ah inaan anigu idinla hadlo. So waxaa ka mid a haddii aad taxdo looxaan badan aad isku tiiriso oo aad mid tuurto midba mid rido ilaa uu ka u dambeeya dhacayo, ka u dambeeya inuu dhaco maxaa ay kasoo bilaabantay inaa uu midba mid uu soo rido ayaa ay kasoo bilaabantay. So isagu saas buu aaminsanaa in axdaaftan waaweyn ee dhacayay ay yihiin natiijo ka dhalatay dhacdooyin yaryar oo lama arkaana qaarkood inaga qarsoon yihiin kuwaasoo hagay dhacdadan guud ee inoo muuqata. So marka inaan idinla hadlo waxay ka dhalatay dhacdooyin badan oo isku tegtegay. Therefore haddii aan natiijada gaari karo inaan yacni anigu idinla hadlaa inay dhacdooyinkaa ku xidhan tahay, waxa ii furnaan karaya inaan saadaalin karo dhacdadan hadda aan joogo halka ay natiijada ay tegi doontana waan garan karaa. Dhacdadan iyada ahna waxa ay ka timiday waan garan karaa. So marka bastigii iyo futurekii way ku furnaanayaan. So isagu wuxuu odhan jiray markaa waxa inoo furmi doono the book of destiny, buuggii qadarka dhan ayaa inoo furnaan doona. So physics-ka isagu markaa wuxuu aaminsanaa inay wax kasta yihiin wax xadidan oo deterministic ah oo natiijo go-an geynaya oo dhaqaaq kastiyo wax kastood samaynaysi uu yahay meel ay tahay qasab inaa uu ku dhammaado. Meeshaa haddii la ogaadana la ogaan karo dhacdooyinkii meeshan ku keenay, dhacdo kastana marka meel loo sugo meeshay ka timiday oo ah dhacdooyinkii bastigiina waa la ogaan karaa, kuwii ay ku socotay geyn kartana waa la ogaan karaa. So anigoo dabcan idiin soo fudaydinaya fahanka saas marka fikirkaas buu isagu dabcan uga soo horjeeday. Marka quantum mechanicsku ma uusan jebin causality-ga iyo sababeynta, laakiin xeerka uu jebiyo waxa weeyaan determinismka xeerkii loo yaqaanay oo u ololeyn jiray Albert Einstein. Ta kale ee objectionka ah ee xalqadii horena aan soo hadal qaadnay waxaa ka mid ah in Stephen Hawking oo kale in badan marka la weydiiyo what was before the Big Bang, Big Bang maxaa ka horreeyay, waxa uu odhan jiray ha i weydiinina wixii ka horreeyay, waayo in la isweydiiyo before in la isweydiiyaa waxa weeyaan waa su-aal qaldan ayaa uu odhan jiray, maadaama aanu soo bilaabmin, maadaama uu yacni waqtiga dhan uu ahaa mid kasoo bilaabmay from Big Bang theory oo matter, space iyo time intuba ay yihiin kuwo kasoo bilaabmay Big Bang theory. Time ayay u baahan tahay for A to cause B. Therefore mar haddii aanu waqti jirin uu waqtigu bilow lahaa, dee ha i weydiinin maxaa ka horreeyay oo waa qalad ayuu odhan jiray. Laakiin isaga ayaa qaldan oo xataa isaga laftigiisa ayaa buuggiisan u dambeeyay 2015kii The Grand Design marka uu doonayay inaa uu usoo bandhigo adduunyada qaabka ay ku samaysantay qaab kale, isaga oo dabcan ku salaynaya theorieskiisii waxyaabihii aan kasoo hadalnay universality aan idiin soo sheegay ee ahaa waxyaabo assumptions oo base ahaan aan iyagiiba proof garaysnayn, isagoo calculationskiisa ku dul samaynaya midba meel buu ula tagaa. So Lawrence Krauss-ka la idhaahdo waxa uu vacuum energy ayuu adduunyada doonayay inaa uu kasoo bilaabo. So qofba meel buu la tegay dabcan xisaabaadka. So isagu markaa waxa uu sameeyey waxa uu samaystay imaginary time, waqti uu mala awaal ka dhigtay kaas oo ay tahay gravity-gu shay suuro gelin karaya adduunkan. So gravity-gu iyadu wax ma samayso,
gravity waxay kuu sheegtaa qalinkan maxaa uu kor ugu sii kici waayey ee markaad tuurtay eed gacmaha faraha ka qaaday uu dhulka ugu dhacay. Yani phenomena weeyaan unbay describe garaysaa. Dhacdada ah inaa uu qalinkani dhulka hoos u yimaado maxaa sababay? So that's waxa sababay waa gravity-ga. So explanation unbay u samaysaa dhacdadaas, laakiinse iyadu wax ma ixdaathiso, wax ma samaynayso, wax ma create garayso, iska dhaaf universe dhani. So sidaas isagu waxa uu sameeyey marka isaga oo bypass garaynaya meeshii uu dadka ku odhan jiray ha i weydiinina Big Bang maxaa ka horreeyay, ayaa uu isaga laftigiisu isku dayay inuu jawaab u helo Big Bang wixii ka horreeyay. Waxa kale oo iyada meeshan in la isweydiiyo qalad ka dhigaysa waxa weeyaan in la isweydiiyo shay sababta keentay ama sababiyadu. Sababiyadu waa ay ka baxsan tahayba time-ka. Isla Erwin Schrödinger buuggiisa la yidhaahdo Philosophy of Cause and Chance waxa uu kaga hadlayaa examples fara badan oo tilmaamaya in causality-ga iyo sababiyadu iyo in la isweydiiyo sababayntu ay tahay mid ka baxsan waqtiga. So waqtigu ma xadidi karo in shay sababtii keentay la isweydiiyo. Tusaalayaasha uu buuggaasi bixinaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii aan ku weydiiyo why there's no life in the moon, nolol maxay uga suurtageli weyday dayaxa, jawaabtaad i siinaysa waa maxay? Waxaad oranaysaa because there's no oxygen. Waayo dayaxu male oxygen. Dayaxu male oxygen iyo dayaxu inaanu lahaan oxygen oo ay taasi u noqotay sabab u tahay inayna nolol uga suurtagelin iyo time wax isa soo galaya ma ahin. So wax ka maqan oo ah oxygentu inay ka maqan tahay dayaxa ayaa sabab u ah in aynay nolol ka suurtagelin. So that example ayaaba ku filan baba inay tahay causality-gu mid ka baxsan time-ka. So in la isweydiiyo maxaa sababay adduunka iyo maxaa keenay amaba sideeba uu ku sababmay ama maxaa ka horreeyay inta aanu adduunku bilaabmin waa mid reasonable ah oo ku salaysan xeerka sababiyada ayna mudan tahay in la isweydiiyo. Haddii la isweydiiyana ay tahay mid la isweydiin karo oo applicable ay ku tahay xeerkan. Intaas waxa weeyaan waa objectionska ka iman kara. Xalqadii hore waxaan kasoo hadalnay jiritaanka Ilaahay, iyadana waxyaabaha oo aan u malaynayo inay iyagana inoo dhinaayeen oo ahayd inaan raacino tan. Waxaa ka mid ah in yacni ay idhaahdeen xeerkan ama causality-gu ma ahin mid wax walba looga jawaab dayi karo oo inta muuqato unbaa yacni sababayntu ku tacalluqtaa oo xeerkani wax diidaya ma jirto in adduunkan ay meel ka banaanaan karto ama universe-kan ay jiri karto meel ay waxyaabaha ay iskaga dhacaan bilaa sabab. Jawaabtoo kooban horta sideedaba horta haddaan Ilaahay jirin micno ma yeelanayaan xeerashan sababaynta iyo cilmiga sayniska iyo waxaasoo dhani. Shayada jira universe-keenan ama adduunkeenan jira waxa ay ku jiraan asbaab waana contingent, yacni wax oo ma ahin iyagu self sufficient oo naftooda sameeye ma ahin, waa muctamid. Waa shayo existence imiday oo jiritaan yeeshay kadib mar aynay jirin. Jiritaankoogu asbaab ayaa uu ku salaysan yahay. Asbaabta haddii la waayo iyaguna waxa weeyaan ma jirayaan. So asbaab ba ay ku jiraan. Mid walba kartidiisa iyo maxaan ku idhaahdaa creationkiisu waxa uu leeyahay xad u gooniya oo aanu dhaafin. Xadkaasina waxaa xadida asbaab. Waxa aanu u dhaafi karinna waa asbaabtii uu ku dhaafi lahaa oo ka maqan. So ega bini'aadamka oo kale waa uu ordi karaa oo waxa uu leeyahay asbaabtii u suurtagelin lahayd inaa uu ordo sida lugo oo kale. Laakiin ma duuli karo waayo waxa ka maqan wixii u suurtagelin lahaa inaa uu duulo ama asbaabtii u suurtagelin lahayd inaa uu duulo sida baadadka oo kale. Markaas yacni shaygu sifooyinkiisa asbaab gooni ah bay ku dhisan yihiin. Sifooyinka ka maqanna waxay uga maqan yihiin asbaabtii suurtagelin lahayd oo ka maqan. Marka in universe-ka uu jiro shay bilaa sabab ah oo bilow aan lahayn oo bilaa sabab, yacni hadduu bilow leeyahay dee sabab buu leeyahay waayo wuxuu u baahan yahay sabab ka soo saarta oo bilowda ayuu u baahan yahay. So in la yidhaahdo shay universe-kan waxaa jiri kara bilaa sabab iskaga jira dee waxa weeyaan waa shay impossible ay tahay oo sabab tahay impossible u tahayna waxa weeyaan universe-kani bilowbaa uu leeyahay. In la idhaahdo shay aan bilow lahayn ayaa ku dhex jira oo ay qasab tahayna mar haddii uu bilaa sabab yahay waa inuuna yeelan bilow, waa inuu weligii jira ahaadaa shaygaasi. Sidoo kale waa inuu wax kasta samayn karaa oo ay ka mid tahay ina uu ku xadgudbo xeerashan uu ku shaqaynayo universe-ku ee ah fine tune eega soo hadalnay ee ah kuwo haddii in yar lagu xadgudbo ay ka dhalanayso inay nolosha iyo adduunkuba ay baabi'i karto. So inuu jiro shay ka baxsan xuduudka sababiyada iyo yacni awood iyo karti u leh oo wax kaste
awooda oo universe-kan dhex ooli kara oo wuxuu doono samayn kara. Yani wuxuu doono waa inuu samayn karaa maadaama ayna jirin sababo iyo asbaab manciya oo u diidaa mar haddii ayna jirin. Waa inuu wax kasta samayn karaa. Oo waa inaga nidhi dee shaygu marka ay wax ka maqan yihiin, asbaabtii u suuro gelin lahayd baa ka maqan. So haddii uu shaygani yahay uu universe-ka jiro oo uu bilaa sabab wax kasta uu ku suuro gelin karayo, isaguna bilaa sabab yahay, bilaa sababna uu xeerashaasi ugu gudbi karo, the universe waa maxay? Waa fine tuned oo waxa weeyaan xeerashiisa in yar haddii lagu xadgudbo ma jiri karto nolol iyo isaguna ma sii joogi karo. So intaynu arkayno adduunyadaasi sidaa iskugu dhisan ee uniformka ah ee socon ee toosan, waxaynu odhan karnaa inaanu jirin shay saas oo kale ah oo ka baxsan xayndaabka sababiyada oo ah yacni shay bilaa sabab wax kastana u samayn kara isaguna bilaa sabab ku jooga kuna jira bilaa sababna waxa weeyaan wuxuu doono noqon kara. Inaanu jirin adduunyada ama universe-kan meel kastay ahaataba waynu hubnaa, waayo adduunyadii ayaa ah mid constant ah oo ku socota that sensitive fine tune ayaa ay ku socotaa oo inaga soo sheegnay xeerashaasi in yar haddii lagu xadgudbo ay noloshu baaba'ayso. So shay saas oo kale ah haddii uu jiri lahaa universe-ka meel uu jiri lahaa, dee wax u diidayaa ma jirteen ina uu ku xadgudbo. Waayo waxan kale oo dhan ee inagu hareeraysan mid walba muxuu leeyahay xad ayaa xadidaya. Mid walbaba asbaabtii uu waxa u suuro galayna uu ku suuro gelay ama sifooyinka uu kasbaday, asbaab uu ku kasbaday oo u saamaxday baa jirta. Sifooyinka ka maqanna asbaabtii u suuro gelin lahayd baa ka maqan. Sidaas baa markaa universe-ku uu ku kala socdaa. So shay hadduu saas oo kale ah jiri lahaa, adduunyada dhanba waa baabi'in lahaa. Qul law kaana fiihimaa aalihatun ila allah lafasadataa. Laakiin hal ilaah inaa uu jiro ayaa ay ka markhaati kacaysaaba in adduunyadu ay noqoto mid hal wado u socoto oo hal qaab ku hagsan oo aan ahayn mid yacni iraadooyin iyo afkaaro isdiidaya ay ku hardamayaan oo iyadiiba aan ahayn mid gergeriirayso gebgablayn badan inayna ahayn. Waxay caddayn u tahay inay adduunyadan ay hagayso doonis keliya. Marka objectionskaas ayaa ka mid ahaa kuwa oo inoo hadhana xalqadii hore. Ta kale ee iyaduna aan ka tagnay baan u malaynayaa markaynu markii hore ka hadlaynay waxay ahayd in haddii la idhaahdo xeerka sababiyada jiritaankiisa haddii aad ilaahay ku sugtay, ilaahayna yaa abuuray oo aan nidhi waa jawaab ka dhalatay si xun u adeegsida xeerasha sababaynta. Saddexba way ku qaldan tahay oo iyadiiba self defeated ah. Waa su-aal isburburinaysa in la idhaahdo ilaahay yaa abuuray waa aniga ku idhaahdo lama dhalaha yaa dhalay. So ilaahay waxaba asal u ah inaa uu yahay isagu abuuray oo aan la abuurin. So lama abuuraha yaa abuuray haddaad tiraahdo waa su-aal isdiidaysa. Lama abuure ma ahin dee haddii la abuuray, oo haddii la abuuray lama abuure ma ahine wuxuu noqonayaa la abuure. So lama dhalaha yaa dhalay haddii aan ku idhaahdo kale weeyaan. Haddii aan ku idhaa yaa dhalay, dee haddii la dhalay lama dhale ma ahine waa qof la dhalay. So taasi waa ku qaldan tahay. Ta labaad waxa weeyaan in la idhaahdo in adiga lagu abuuray kama dhigna in ilaahayna la abuuray. So haddii aad hotel tagto qada fiican lagu keeno oo tiraa qadadan yaa kariyey oo lagu idhahdo waxa kariyey hebel oo madbaxa ku jira, ma kaa suurowda inaad tiraahdo hebelna yaa kariyey? Kaama suurowdo. So sidaasi la mid ah in yacni adiga lagu abuuray oo adiga aad noqoto mid la abuuray ama adduunkan la abuuray kama dhigna in ilaahay laftigiisa la abuuray. Fahan ahaan haddii aan kusoo dhaweeyo sidee baa uu ilaahay u abuuri karaa isagoon la abuurin adduunyada iyo amaba uu abuuritaan u samayn karaa isagoon u baahan in isaga la abuuro. Tusaale aan ku sii waxa weeyaan in yacni haddii eega aan guriga aan joogo aan salaada u baxo oo aan laptopka ka tago oo aan laptopka u imaado oo meeshii ka maqan, su-aal ahaan waxaan is odhan karaa yaa ka qaaday? Waayo waxaan ogahay ilaa la qaado mooyaane isagu isma qaadi karo oo qaaditaan ma samayn karo. Laakiin haddii aan markii aan ka tegayay walaalkay dhinacaas isaguna sariirta jiifay oo aan imaado, markaan imaadana aan arko walaalkay sariirta ka maqan, igama suurowda inaan idhaahdo yaa qaaday. Waayo walaalkay waxa uu karti u leeyahay oo uu yacni sifo u leeyahay ina uu isagu uu iskii u dhaqaaqi karo meesha uga tegi karo isagoon u baahan in la qaado. So ilaahay isagu waxa uu abuuri karaa isagoo aan u baahan in isaga la abuuro. So in adiga lagu abuuray kama dhigna in uu ilaahay la abuuran yahay. In la idhaahdo ilaahay yaa abuurayna waxaa kasii dhalanaysa yaa isagana sii abuuray. Ilaahay abuuray yaa sii abuuray. Ilaahay kale abuurayna yaa sii abuuray. So ilaa silsilad heer aan dhammaad lahayn. So haddii ay saasi usii socotana waxaa ka dhalanaysa inayna waxba jirin.
inayna waxba jirinna maahin adduunkana waxbaa jira so inagaa jirna iyo waxaas inagu haraaraysan baa jira so existence baa jira marka jiritaankan inaa uu jira waxay ka markhaati kacaysaa inayna jirin silsilad asbaab ah oo aan dhammaad lahayn taasoo haddii ay jiri lahayd ayna waxba suuro galeen waa sidii anigoo ku idhaahdo hebel baa dil lagu xukumay askarigii toogan lahaana uu idhaahdo waxaan ka sugayaa amar si aan u toogto taliyuhuna uu idhaahdo wasiirka gaashaandhigga wasiirkaasina wasiirka difaaca kaasina uu idhaahdo ra-iisul wasaaraha kaasina uu idhaahdo madaxweynaha madaxweynuhuna qof kale idhaahdo kii kalena qof kale ilaa heer aan dhammaad lahayn waxa dhalan doonta inaan la toogan oo ninkaa aan la dilin so waxa aynu haynaa waa maxay waa natiijo ah in adduunku uu jiro adduunku inuu jirana waxay u baahan tahay explanation iyo cause waayo adduunkii waa effect cause iyo sababtiina waa inaga caawa halkaasi ku sugnay oo ah ina uu ilaahay uu jiro waxaan kusoo gabagabeynayaa aad baan u dheeriyey kolley wax badanna waa ii hadhanaa insha allahu tacaala next week markaynu kulanno ayaan intaa in dheer iyo aynu ka hadli doonaa haddii ilaahay idhaahdo nolosha iyo adduunka si guudba aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka qaarkood oo maaragtay dadka maaragtay walciyaadu billaahi diinta ka fidnoobay markay koonka ka hadlayaan dee waxay uga hadlaan calaa jahlin inta badan xaqiiqatan jahli ahaan bay uga hadlaan marka waxaan rabaa waxaad maqlaysaa qaarkood doctor ayagoo leh waxba kama jiraan meeshan cir wax la dhaho ma jiraba maa fi samaa hunaak samaba ma jirtay ku leeyihiin waxaan waa iska oxygen iyo wax lamid ah marka ilaahay baa inoo sheegay annagu waa rumaysanahay inay sama jirto waana wax maaragtay waaqic oo xaqiiqo ah maxay xiganayaan ma wax hadda حتى wax kulley oo sugan oo maba sugnaan kartee laakiin ma wax cilmi ah oo xataa laga niqaash karo laga doodi karo miyaa jira oo inkiraya in maaragtay koonka sama aysan jirinin miyaa jira su'aashaasaan qabaa anigu insha allahu tacaala in aniga la igu hormaraan jeclahay walaalka kadibna su'aalihiisa ama yarkaan kale su'aalihiisa markaas loo gudbo jazaakum allahu khayran taasaan kaga baxay aad baan ugu mahadcelinayaa doctorka aad iyo aad baan maaragtay leenahay ilaahay adigoo kale ha badiyo noo soo badi barnaamijta noocaas oo kale faa'iidada leh ummadda wax u taraysa jazaaka allahu khayran assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال هدي أنا كجوابه والقاسم سؤال meeshan waxa weeyaan waa space iska maran oo bannaan marka wax sama la yiraahdo ma jirto horta samaa inagu marka aynu leenahay lababa waa loo isticmaalaa in tan soka lagu tilmaamo iyo adduunka dhanba universe-ka dhanba ilaahay markuu leeyahay gaayadii uu ustaadku soo qaadanayay tusaale ustaad cabdirasaaq awalam yara alladhiina kafaruu anna as-samaawaati wal-arda kaanataa ratqan fafataqnaahuma lama jeedo intan yara inagu xaraaraysan ama atmosphere-ka waana noqon kartaa oo atmosphere-ka way noqon kartaa oo meerar badan yacni waa u daliishaday quraanku laakiin si guud haddana samaa kownka ayaa loo idhaahdaayo eega tusaale waxaa ka mid ahaa aayaddii uu iminka soo qaadanayay uu yidhi waxa weeyaan suuratu daariyaad ku jirtay samaa biaydin wa innaa lamuusicuun yacni tawasuca ka hadlaysay uu ilaahay yidhi annagaa samada abuurnay oo ballaadhinaynana uu yidhi so waa universe-ka atmosphere-kana ma ahayn ka ballaadhanay so labada jeerba way noqon kartaa marka in aad tiraahdo waxba ma yaalaan oo halkan inaga sarreysay sama ma ahin dee adduunyadii oo dhan baa inaga sarreysa dhulkan aan ku taagannahay marka laga tago wax alla waxaasoo xidiga iyo waxaasoo dhan baa inaga sarreeya halkan inaga ay ka hadlayaan ee sida caadiga ay refer garanayaan atmosphere-kana dee oxygen baa joogta oxygen waa maxay waa molecule so sidoo kale meeshu ma ahin wax bannaan waa meel ay isku galaan space iyo time so waa space time so space time ma ahin waxaad odhan karta nothing adduunku wuxuu ka samaysan yahay waxa weeyaan space time matter iyo energy waba afartaas weeyaan afarta big bang kasoo bilaabmay dhagaxaasi waa matter yacni entropyga iyo adduunkaasoo dhani waa wada energyga adceedda energy baa ka imanaysa waa kana waa material iyadii waa star so space time iyo matter iyo energy intaasaba jirtaba half wixii adduunka jira markaa tiraa waxba yahay baa inaga sarreeya so waa garaadle unbay ka tahay laakiin ma ahin wax scientifically aad odhan karto ama science ahaan waa waxba ayaa inaga sarreeya waa meel iska bannaano so awal baa saa la moodi jiray laakiin iminka waxa weeyaan waxaa la ogyahay in space iyo time ay yihiin waxa inaga sarreeya soo dhow waa mahadsantihiin waan salaamayaa culummada meesha ku jirto iyo
ditoorkaba su-aasheedu waxay tahay horta saynisku ma noqon karaa wax diimaha inay run yihiin iyo inay ben yihiin lagu xaqiijin karo haddii sayniska uu diinta ka hor yimaado micnaheedu ma tahay in sayniska la qaadan karo oo diinta laga tagi karo su-aasheedu koowaad waa taas haye su-aasha labaad su-aasheeda labaad waxaa weeyaan 6 cisho ayaa lagu abuura buu leeyahay qur-aanka adduunyada iyo dhulkaba marka siday big bang iyo isku waafaqayaan arrinkaani ma dhamaysay bal labadaas baa walaal su-aalahayga way badan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal u kala gudubno intaan hal wax wada sheegi lahaa oo ma garanaysaa aad hal marka wada jawaabi lahayd way dhib male soo dhowow adigana waan kusoo dhaweynaya su-aasha koowaad waxaa tiri saynisku ma noqon karaa mid diimaha lagu beenin karo amaba lagu rumayn karo mid baa muhiima inaan isla fahanno saynisku waxa weeyaan waa shay xuduudiisa leh sayniskuna su-aal buu ka jawaabaa diintuna su-aal bay ka jawaabtaa xalqadii hore waxaan ka jawaabnay waxyaabaha bini aadamka diin ku keenay ama ku dhaliyey waa maxay ee ka dhigay diinta universal phenomena ama wax daahiro guud oo adduunyada ka wada jirta maxaa ay u noqotay waxa ay u noqotay fidri oo waxay ku abuureen su-aalo aanu saynisku jawaabna uba heli karin marnaba waxaa ka mid a maxaa kumaan ahay anigu kumaan ahay saynisku kama jawaabi karo saynisku maxaan anigu halkan u joogaa so saynisku wuxuu ka jawaabi karaa haddii aan baastoolad soo qaado oo aan laabta kaaga dhufto ama wadnaha kaaga dhufto maxaa dhici doona waxaa dhici doona inaad dhiman doonto yes laakiin miyaan kugu dhuftaa mise waan kaa daayaa waa su-aal u taala moral philosophiga ama falsafada akhlaaqda u taala ma ahin si uu saynisku ka jawaabi karo so saynisku xuduud baa uu leeyahay sax iyo qaladna kama jawaabi karo maan dilaa hebel mise waan iska daayaa ummadda miyaan gumaadaayoon xasuuqaa kama jawaabi karo saynisku so su-aalo uu saynisku ka jawaabi karo iyo su-aalo aanu ka jawaabi karin baa jirta marka sayniska in lasoo qaado oo la idhaahdo diin baa lagu disprove garaynaya de isku su-aalaba kama jawaabayaane maxaad iskugu keeni yes way dhici kartaa inaad comparison ku samayso oo aad tiraahdo waxa weeyaan waxyaabo ay diimaha qaar sheegaan iyo observable realityga inoo muuqda iyo waaqica aan inoo aragno waa iskhilaafayaan oo waa ay kala duwan yihiin laakiin si guud diimaha haddii aad u eegto tiraahdo waxa weeyaan diin baan science ku disprove garaynaya waxaan u arkaa anigu in my humble opinion inay yihiin labo waddo oo kala jeeda oo aan yani isa soo geli karinbaba saynisku empirical wuxuu ku salaysan yahay induction oo lab iyo experiments buu ku sameeya la sameeyaa so experiment yani diintu ma ahin ama maxaan ku rahdaa fikirka iyo fidrada bini aadamku ma ahin to aad u bandhigi karto lab oo aad dabeedna odhan karto waxa weeyaan su-aashan buu saynisku ka jawaabay mar haddii aad aaminsanayd inay here after ama aakhiro ay jirto oo aad aaminsanayd inaad u timiday halkan inaad camal saalix iyo cibaado aad u timiday waa kanoo science anigoo adeegsanaya waxaas waxba kama jiraan so you can't oo diimahan oo dhan waxay ku saldhigtaan jiritaanka ilaah kaas oo aan subjectiva ku ahayn science-ka yacni ma hoos dhigi kartid eg science-ku maxaa uu baari karaa science-ku waxa uu baari karaa material iyo maado ayaa uu ku dhex shaqayn karaa isaga oo cause and effect relationship yani natiijo iyo sababteedii isaga oo baaritaan ku sameynaya saynisku waxyaabaha ka baxsan daahiradan waxyaabahan aynu taaban karno ee xisiga ah ee maatarka ah ma investigate garayn karo ruux ma baari karo saynisku waxna kama yaqaan shaydaan iyo sixir iyo waxyaabaha supernaturalka ah ee aan ahaynba aslanba maado iyo maatar aan ka samaysnayn ma baari karo saynisku so ilaahayna waynaga nidhi waxa weeyaan waa baa-in oo waa baa-in can khalqi oo abuurkiisa waa uu ka baxsan yahay mana aha maadana ma ahin space iyo time iyo energy midna ma ahin so saynisku maba baari karaba diinahan aynu ku hadlaynana waxay u saldhigtaan oo ay ku abtirsadaan jiritaanka ilaah adduunyadan abuuray oo bilaabay so marka ismaba soo galaanbaba isma soo gali karaan yacni meelaha qaar oo ay iska soo gali karaan sida in aad tiraahdo waxyaabo aan observation ku ogaanay iyo waxyaabo ay diinta hebel tiri oo ay ku qaldan tahay tan laakiin si guud inaad yani diintii aad
uga soo dhigto science-kan alternative ba ama science-kan badiilba u noqon karin waxyaabaha ay diintu ka jawaabayso. saa darteed ma wada saari karo oo diin kuma wada beenin kartid science, waayo diin ku wada dhisanba science ma jirto. oo waxa ugu weynay awoodda saaraysaa diintu waa maxay? waa inay ka jawaabto su-aalahan. ummad walbaba waxay diin u haysataana waa su-aalahan, oo ay u arkaan inay yihiin kuwo ka ahmiyadsan oo ka muhiimsan naftooda xataa iyo xidhiidhkooda qaraabo. saas darteed bay yani aad u arkaysaa in aabbo iyo inankii ay isku dilayaan diin, ama inan dadkii uu kasoo jeeday ula dagaalamaya maadaamay ka baxsan yihiin diintooda. so su-aalaha ka kala jawaabayaanba ismale, laba dariiq bay kala wataan. marka saynisku mana noqon karo mid bedeli kara diinta, maadaama aanu ka jawaabi karin su-aalaha ka baxsanba xayndaabka empirical science-ka iyo tijaabada ka baxsan. marka su-aasha koowaad taas bay ahayd. su-aasha labaad ma igu soo celin kartaa? waa iloobe. waxaan jeclaan lahaa haddii aad ii ogolaanaysaan in aan arrinkan wax kaa weydiiyo. arrinka hadda su-aasha labaad waan kuu sheegayaa intaan u gudbin. haddii aadan doonaynin inaan su-aal kaa weydiiyana su-aasha labaad baan kuu sheegayaa. su-aashii labaad codkayga yar ogaay. su-aasha labaad maxaa tiri? su-aasha labaad intaan u gudbin waxaan jeclaan lahaa hadalkayga hadda inaan su-aal kaaga soo celiyo. su-aasha labaad haddii aadan doonin inaad ka jawaabtidna su-aasha labaad waan kuu sheegi karayaa. دكتور أحمد وغير الله كسيمي ليو سؤال شيء أدو دي سؤال جوابي marka hadii adiga aad halka soo celiso waxay noqonaysaa dood bay noqonaysaa meeshan su'aal iyo jawaab baan rabnaa. marka su'aashii labaad ku celi insha Allah. maasanta hay waa mahadsantahay. su-aashii labaad waxay ahayd qur-aanku wuxuu sheegayaa in 6 cisho lagu abuuray adduunyada iyo magaranaysaa dhulka dhammaantiisa jiritaankoo dhan. marka taasoo oo micnaha sayniska toos uga hor imaanaysa. adduunka aad buu cimrigiisa u dheeryahay markaa fiirisid, wax cishooyin lagu koobi karana inuusan ahayn. marka say isku micnaha hadda culummadu waxay aaminsan yihiin micnaha theoryga hadda sharaxaya adduunkan sida u bilowday waa big bangna micnaha ma sheegaysa in 6 cisho adduun iyo wax u dhow uu ku abuurmi karo. marka see qofku isku waafajin karaya? waayahay allah ku barakeeyo. kolley mar aan ama barnaamijka silsiladan mar aan sayniska iyo si guud islaamkaba aan kaga hadlayo oo topigaas iyo tobigyo badan aan gudaha usii dhex gali doono waa ay jiraan. hadda haddii aan jawaab kooban ku siiyo, kalimatu yowm ama ayaam luqadda carabiga kole culimmadii oo ka mid yahay cuthaymiin iyo sheekh cabdiraxmaan cabdirasaaq sugule waa joogaa. ma ahin 24 hour daygan aad tirsato oo keliya oo kuma abtirsadaan qur-aanka laftigiisa. xataa meelo badan waxaa ku jirta suurat micraaj oo kale, wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun. so waa ay kala duwan tahay luqadda carabiga ah. ma ahin had iyo jeer ma tilmaamto 24 hour day oo 24 saac maalin uun. kelmadda looma isticmaalo ayaam iyo yowm. so in badan waxaan haddii ilaahay idhaahdo jecelahay inaan topigaas aan aad usii dhex galo markaan ka hadli doono qur-aanka iyo diinta iyo si guudba sayniska iyo ummadda islaamka taariikhdoodiiba. marka aad baad mahadsan tahay. diinta oo masiixiyadda. marka diinta masiixiyaddan waxaad aaminsan tihiin in iyada naftarkeeda uu ka yimaaday ilaahay uu ka yimaado wax laba bedela ay tahay. marka see loo dhihi karaa halkaana cisha laga wadaa halkaasna cisho lagama wado, wixiina iyagoo xataa luqado kala duwan ku qoran yihiin. leo kuwa masiixiinta taa weydi, laakiin anigu islaamka waa qusay doctorka weydiinaysaa ta masiixidaan wax nama qusayso. marka haddii su-aal kala qabtid labada su-aalood waa laga jawaabay. haddii adig kusoo laabatid marka hal su-aal oo kale aan weydiinayaa waa idin kaga baxayaa. su-aasheeda kale waxay tahay adduunyada inay bilaabatay ma arrin scientific ah oo micnaha t ay 0 tahay ma arrin scientific ah? halo sax. marka waa sidaa horta sheekhu u dhigaya waxaweyaan masiixiyada baad weydiin buga genesis-ka la dhahday kaga hadlaan. dabcan adigiiba dee noo dhameeyey idhi waxaad rumaysantihiinba inay taxriifiyeen iyo bedeleen. so buug taxriifsan oo bedelan inaan difaaco halkan uma joogo. ta kale waxa weye imana dhibayso dabcan waxay rumaysan yihiin, laakiin waxaan ka mas-uulnahay qur-aankuna waxa uu kusoo degay luqa carabiya iyo context ummad
af carabiga ku hadasha. Bugaagta tafaasiirta ahna dabcan qaabkay u fasireen iyo culimmada islaamka iyo kelmad iyo inta micnay leedahay iyo qaabka loo daliishan karaba turaadkeenay ku qoran tahay ee bibleka iyo christianityga iyo church fatherska midna nooma uusan saldhigin. So kaayaga unbaan ka jawaabi karnaa, kaayagaas unbaa kaana waana sida aan kuu sheegay oo wax weeyaan yowm ma ahayn inay qasab noqoto 24 saac ama ayaam 6 ayaam marka la leeyahay 24 saac oo day iyo night leh lagama hadlayo. Ta kale eega aad i weydiisay oo ah adduunyadu inay bilow leedahay ma scientific ba. Iminka maxaan ka hadlayay? Waxaan ka hadlayay in adduunyadu ay bilaabantay oo adduunyadu maxayba ka samaysan tahay universe-keena. Waa time oo socda. Timekaasi bilow buu lahaa. Hadduu timeku bilow lahaa, everything aan arkaynayna bilow baa uu lahaa. Oo timekii iyo matterkii iyo energygii iyo space time iyo matter iyo energy. Afartaas uu universe-ku ka kooban yahay haddii ay bilow lahaayeen oo big bang ay kasoo bilaabmeen, then by default oo si calaaduul toos dee adduunyada dhan bilow bay lahayd. Waana scientific oo waxa weeyaan caddeymahan dee maanta dhan adeegsanayaba waxay ahaayeen kuwo scientific bay ahaayeen. So yes, reference markaa haddii aan ku siiyo waxaad ka heli kartaa, waxaa jira websites aan mid eega aan ku jecelahayba inaan kula wadaago oo ka hadlaya in adiganba horta ku yar weydiiyo ma leedahay adduunyadu bilowna male, timekuna waxa weeyaan bilow ma lahayn, saa miyaad leedahay? maya anigu waxaan leeyahay sida big bang uu qabo wixii blank time ka horeeya ma la garanayo, mana aha scientific. tii markay zero noqoto ma aha scientific. wixii ma garanaysaa blank time ka dambeeya big bang theory macnaha scientific ahaan u sheegaya. wixii intaas ka horeeya ma aha wax scientific. haddaa ila wadaagi karto oo dadka la wadaagi karto wax qurux badan. Okay, waa sax waad mahadsan tahay. So time baa soo bilaabmay. So timeka haddii uu bilow lahaa oo spaceku bilow lahaa oo space time iyo energy iyo matter afartuba ay kasoo bilaabmeen big bang, sida oo maxaan ku idhaahdaa, adigana waan kusoo diray linkiga website oo ma garanayo clubhouse-ka in uu leeyahay karaan oo ma garanayo application waa ku cusubahay. Yes, waxaan oo dhanba adduunkan oo universe-kan oo afartaas ka kooban bilowaa uu lahaa, blank science iyo blank time inaan laga gudbi karin. Laakiin miyaad leedahay time baa jira before blank science-ka? Ma iigu celi su-aashaada maan maqlin garaal noqo. waayahay walaal kayf baan usoo dirayaa whatsapp-kan kugu diray. So Hanadina Khriyo in so digin, the universal origin story known as the Big Bang postulates that 13.7 billion years ago, our universe emerged from a singularity, a point of infinite density and gravity, and that before this event, space, يعني دعدada Big Bang kahor, space and time did not exist. Ma aysan jirin space iyo waqti. Ma aysan jirin Big Bang kahor, which means the Big Bang took place at no place, no time. Hello, Igral. waa ku maqla waxaana akhrinayso ma waa maxay ma yes macnaha in uu timeka uu bilow lahaa runtii wax scientifica ma aha. macnaha website-kan hadda aad kasoo qaadanaysan runtii ani waxaan jeclaan lahaa wax ila wadaagayso inaad macnaha study ila wadaagto, peer review study inaad ila wadaagto. macnaha artikaladan waxay doonaan ay qori karaan, mana la factual garayn karo. laakiin waxaan jeclaan lahaa qofka arinkan rabo inuu si deeply u baaro, uu baari karayaa time macnaha inuu zero yahay. cidna lama ogaan karo maxaa yeelay equationada la isticmaalo markii la baarayo originka of the universe waa general relativity-ga. markii timeka uu zero noqdo, volumeka universe-gan wuxuu noqonayaa zero. equationkaasna wax macnaha ma sameynayo. sidaa daraadeed scientific ma aha, waa realm oo ma garanaysaa wixii inta blank time wixii intaa ka baxsan waa speculation weeyaan.
no one knows dadka xataa waxaan barta anigaan ma ogo micnaha waa hadda waa waxyaabo micnaha dadka philosophy-ga barta arrinkan kusii doodo oo ma garanaysa dadka qaar waxay ku leeyihiin timeka micnaha it runs backwards micnaha waa iska pure speculation aniga xataa waxaan ku dhaho hadda ha qaadan qof kale wuxuu yidhaa ha qaadan laakiin t inay zero tahay qofkii keeno waxaa weeyaan asaa abaalmarin leh marka hadda scientific theory laakiin big bang wuxuu sharaxayaa wuxuu ka bilaabanayaa kama bilaabanaya time oo micnaha markuu ever yahay volumeka universigana markuu ever yahay wuxuu ka bilaabanaya single point oo micnaha doctorka ka jawaabo doctor hay okay so ujeedadan ka dan lahaa waxay ahayd in ay tahay xilliga so this waa space.com baa la dhahdaa waa website reliable ah ma ahin website-ada oo ay cid walba waxay doontaa iska soo dhigto so waxaan jecelahay inaad yar kala barato website-ada yani kuwa reliable-ka iyo kuwa kale ku kasta aanad isku oran waa unreliable meel aan source-keeda lagu kalsoonin waxba kama soo qaado inta ay lahaayeen waxay ahayd in big bang ay kasoo bilaabantay meel no time ah oo ay big bang ahayd meel bilowday oo ay ka bilaabmaan waxa la dhahdo space time iyo matter iyo energy intaana waa aniga halkaa ku qoray wixii intaa ka dambeeyay cidaad madaxa istartaan aniga ma ahinoo anigu ma aansan qorin oo dadkii cilmigan aan aqoonteeda u daba fadhiisanaynay ee aanan anigu mabda ahaan iyo fikir ahaanba aanu iskhilaafsannahay oo qaarkood badankooga ay leeyihiin ilaahay ma jiro qaar badanna agnostic ay sheegtaan mid muslina iyo mid aan wax isku nahayna ma jirto aniga adigaba waxa weeyaan dadkaas baynu u daba fadhiisanaa intan aad leedahayna dadkaad kasoo qaadatay waa dadka intaa qoray runtiina waxa weeyaan cilmigan controversigiisa iyo doodihiisa iyo muranadiisa waa uu leeyahay xagga hore waan ka hadlay laakiin waxyaabaha aynu imika u hayno observation waxaa ka mid ah this big bang theory la yidhaahdo oo ay supportive evidence-keediina aan hore usoo sheegay haddii aad intii hore joogtay marka yes before the big bang no place no time iyo no matter and no energy intaas bay leeyihiin wax reason on ku diidana ma arkayo laakiin if you have your own reasons waxa weeyaan waa caadi cilmigu baxrigaas buu ka badan yahay runtiina waxa weeyaan qaar badan iyagu waxa weeyaan opinions isdiida waa ay leeyihiin Ben Rose oo kale waxa uu leeyahay bahan physics cusub iska bilaabano theoremska iyo waxyaabaha laftigooda yani waa la isku khilaafaa waa ay jiraan calculationskii string theory anaga hore usoo sheegay waa ay jiraan marka waa caadi wixii kale yani difference of opinions waa caadi caddaynteedana waad keeni baxdi iyo inaad baadhood wax iga duwan keentana dee wax dhiba kuma jirto waxa weeyaan qul man yaddaci alcilma qad xafidta shay-an waqaabad canka ashyaa qof cilmi oo dhan koobsaday anigu ma sheeganayo qof waxaan ahay arday ah inna waan aqaanaa oo ilaahay waa isiiyey hana ii barakeeyo inna ma aqaano baxdigeediina waa aan ku jiraa labo source oo kala duwan wax kasoo kala qaadan karnaa laakiin aniga masterkayga iyo evidence-kaygu waa bogga brief history of time la idhaahdo iyo websitekaasi labadabana dad physics yahanaba soo post gareeyey oo cilmiga physicska loo daba fadhiisto universitieska iyo caalamka adduunkana jaamacadahooga ka dhiga kuwaasna waxa weeyaan dee kuwa ka duwan oo cagsigooda soo bandhigi karayana waa dee hadhowna xujajka unbala isbarbardhigayo wax dhiba ma jirto marka waxaan jecelahay inaan intaa kaga baxo jawaabtaadii waad mahadsantahay يتيم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من